السلام عليكم أصحابتي أن شعلها يسولي وهذا جمعة كريم جمعة مبارك ما أنت دوتش جا وحمر سنة هالرالي إسكان نقطة بيكاس هبلا بدن بيجوا هذا ملك مركز قرحين يسيد ما سوى قشيدنا لما سعود سيد مركز طابير ما نسكحنا عشان ما دنا يدي كان يكسر هذا وقت الرنتي مركز حنسلها ما أنت حنا يشاك وحنا يشاك يا ديار أصحابي صاع عررة والسلام يا دمانتين ما أنتوا حقيقي مرسن حوغير إسجقلينا واتشمعها وحي أن سميت شرني هبلها يجا behind the scenes مركا هبلا ما يقول ملقى واحد مرستيد كما هذا شيء واحد ناتشرال كواحد جوري يا لا ما عنده إنه وانصاصة في موقته وحيابها عن استعماله وان يسوي دي واحد نقول صياعة بل إيش ما شاء الله شنبرا لقى هذلي هرت جمعة ونكسر دمانتين أصحاب تا إن ما دنا ويلكم باين اللي ما داون أستران هاي وجه كنا واحد مرسني حوغيره alaabta isqurxinta jirkan waxbaan ku yar ismuud gareeyay ma arkaysan dhalaalka huruud natural oo kugu dhageynin ayaan ma aragtay jirka marsada qofkii u baahan uu soo doonan kara faa'iido shay gacmahayga usually way ka madaween inta kale marka xinaan doonay maanta inaan marsado xinahayga yaraan waa ii diyaar haddaan saan u qoslayo aan marsan karaba buugii xinahuna waa ii diyaar hablaha jecel xina barashada walaalayaal waxaad ka iibsan karaysaan Amazon waan idin la jecelahay aniga markaan xinaha baranayay this was a guide ka soo iibsada ma aqaan $8 iyo wuxuu ahaa barigaasi intuu maraya ma garanayo saddex buuga kala noocaan ka iibsaday jis xina book xina design book ku qora hablaha doonay xinaha barashadiisa walaalayaal waad iibsan karaysaan wax walba wanaag waan idin la jecelahay xinahan yare caadiga ana waxaan ka soo iibsaday moolkii maalintii dhaweytay walaashay Leila iga soo iibsay dukaankii Leila Caday ayaan ka soo qaatay saaxiibaday moolkii way ka guurtay aan jecelahay filis wax ku soo salaamaya dad daawatay barnaamijkan anyway so dhawaada dhawaantiin halkaan iska joogaayo xooga yar horta waxa ii marsan huruudi aan wajigaaga yelo ka dhigaynin iyo xabada soodadii ayaan marsan xitaa baabacooyinka weyn ka arkay xooga yar waad dareemaysaa laakiin hadda jirka saa ugu nadiifisid sida hadda ugu nadiifisid horta ma sha Allah soo qorade ما شاء الله صاقرة maxay jirka saa ugu nadiifisid oo meel tagaysid huruud iyo yellow iyo kaama muuqanaysa sad u dhalaalaysa bariga aan clinic ka soo gali jirayna huruudana huruud popular aroosadaha ayaan jirkooda ku maydhaa waad soo dalban karaysaan marka waxa weey huruudan idin ku dhageynin jirka dhan ay isla mililkaaga saaraysa waxa weeyaan one of my best products aan haysto hablaha aroosaduhum baan ugu meedhi jiray jirka imikana idinka ayaan idin soo diyaarinaya cidii doonaysa inay iibsato waxa weey waad iga soo dalban karaysaan aad baan salaamaya horta jimco wanaagsan dhamaantiin waxaan salaxinay maanta meesha ku marsatid asxaabtana la sheekaysatid maanta waa dharmayd iyo guri hagaajin iyo shaqo marka waxaan sirxinaha yar intaad marsaysa hablaha soo gal oo la yara sheekayso asxaabta mawduuca maanta waa halkaas aan idin soo dhigay waxaan doonayaa inaan iska yara kaftano da kasta single waad ku noqon karaysaa markaan aanu mawduucyada soo dhigayo uma soo dhigayo kaftanka iyo ciyaarta welcome asxaabta kaftanka iyo ciyaarta iyo magarasa mikiyaashka oo lada uma soo dhigayo ciyaalka iyo dhalinyarada aadka u sii yaryar hooyooyin badan baa ka xishooday inay isqurxiyaan oo moodo inantooda 18 years old ka kaliya ta inay maaragtay makeup ka marsanaysid ha xabiibti ii soo dir fariin saliid lagu soo diraya wixii kala u baahataa lagu soo diraya khadra soo dhaw adigana aamino welcome dhamaantiin asxaabta hodan dhamaantiin marwooyin badan baa moodo in gabdhaha yaryar kaliya ta qurxinta ay maaragtay ay naftooda maaragtay ku dadaalaan oo islaam waa lagu la yaabay ama maaragtay dadka waxba ha weydiinin iikaadi waan garanayaa inankaasi soo wacay xaaskiisa alaabta u rabay in yar iikaadi haddaan soo galay oo Facebook igala xiran wuu mahadsan yahay isaguna marwooyinka ayaa aad ugu sii baahan inay maaragtay alaabta isqurxinta iyo isdiyaarinta iyo ishagaajinta maaragtay aadka ugu baahan marka waxaan idin leeyahay markasta idinka ayaa koow ka ah maaha hadda shalay baan idin haystoon kaftamay qoslayoon lahaa markaad xaajiga gacanta ku soo dhigtaan meel ha fariisanine isku wada bahasha isku kala jara ma fahantay marka waxaan leeyahay ka fariisanina aad baan soo salaamay dhamaantiin xinahan waxina yaro degdega actually kii horan maanta iska xoqay daraayo iskinkayga geliyay ma arkaysaan xoogay daray creaman intani marinin waxaan doonay xinuhu i qabto aroos baan leenahay walaalayaal ila soo taliya arooska saaxiibada walaashay ma taga biritoole mise waa iskaga joogaa because aniga wadi ogtihiin waan ka baqaa meesha publicada ma garanaysaa iyadaan qaadi way hablaha customerkuna way yimaadaan alaabooyinka way iga qaataan oo maanta inan baan u diyaariyay alaabadeedii cagaha way idinka arkaya waxay igu tiri gloveska jirka lagu maydho yalow iga dhig way huruudi sideeda waxyaabahaas jirka ku maydhataa muxuu ahaydeenay aniga intuu samar leh hadaaban ku jiraba life ka maxaa ilaa waa isqurxine
bicihii ay cagaha gashanaysay ay ku xidhaysay ma garanaysaa bicihiina waan u diyaariyey markaa qolada dhaxantii baa saaxiibaya soo dhacaysa anaa idiin sheegaya gabdha dhaxantii baa soo dhacaysa wixii cagaha u baahnaydeen oo dhan cirbaha iyo gacmaha wayna adkaadaan saasay kuu daadanayaan wallahi alcadiim aamina cabdiyey markaa I have creamkii cagaha I have bahalkii kale cirbaha ma garanaysaa palmkii cirbaha maaragtay jilcinayay wax walba skincare dadka markaan idin leeyahay anigu skincare kan bartay macnaheedu maaha in wajiga kaliya aan ka warwarno walaalayaal jirka dhan inaad smooth ka dhigto weeyaan sibiibix sidii caroosadoo kale aad noqotid weeyaan sida babyga ma garanaysaa soo haddii xitaa brown aad tahay haddaad cad tahay haddaad tahay maariin dhalaal haddaad tahay inan madoowo isku tumato anigoo kale ah waxa weyn jirkaagu sidaa u dhalaala weeyaan oo dee mar kasta ma aragtay adigii habi isku noqotay haddaad habi isku noqotid qofkii ku jeclaan habiga kugu noqonaya lacagteeda isbangaraysana danka malaha wuxuu odhanayaa meel kale may geenin bahalkii cirbaha lagu xoqaayay everything baan walaashay u diyaariyey iyo dhaladii weyneeda creamkeeda jirka ay wada marsanaysay marka aniga waxay igu tiri walaale alaabta jirkan u baahanay wejigii waan galnay hawshiisii timahana saliidda iga qaadato inantaasi de qof walba wuxuu u baahan yahay buu iga soo dalban karaa inan kaloo walaashaya waxaan waa alaabooyinkan dirdirayay inan kaloo walaashayana waxa weeye saliiddii iyo waxyaabay u baahnayd sadkii haarta wejiga haarta ku galay waqtigii ugu fiicnaay haarta wejiga laga qaadayay ayaan ku jirnaa soo dhawaadaan idin leeyahay waxa weye winterkii baynu gelinaa fall seasonka is the best season maqaarkaaga uu ka nasanay cadceedii haddaanad u diyaar garoobin de waxa weeye oo ayna dhowrkaa bilood ee soo socda ka shaqaynin dee waad garanaysaana aniga maaragtay idiin jooga ma garatay su-aalihiina soo dira waxaad iga baahantihiin soo dira soo sheegta waxaad u baahan tihiin waxa weeyaan mushkiladiina ii soo bandhiga it's okay yeah تاليسا توفيق ويلكم صاحبنا صاحبتين حيرسن ماذا أصحابتي كلا دهرت واتشمع وحنا دلنا جمعة كريم دمانتين ميل كستو دون كده على ديسك تشوكتان صاحب لون صوص سلامة ما أنت محاول تجيني مرسن هرودي يريد أن كبود جيني ورجت كون كير الندي في حاجي حنا يرجل أبا ولاش كسوقات يو تمبريريا أراس بان لين هاي بريتوله وحنا سلها ما تقطع أراس كولاش ما قاعد كر ولاش يغير شوب لتجي شلي طالما عرفتين طب كأراس كمان سو iibinay waan kusoo guulaysanay maasha allah jewelrygii ay toobka arooska u xidhanaysay waanu soo helnay jewelrygii sadkii jewelryga ahaaye muxuu ahaydane diamondka ahaaye u xidhanaysay toobka arooska waanu soo helnay dukaamo waxaan geeyey kale oo deg deg ay uga iibsan karayso because meelo badan bay soo martay macy's baanu tagnay dukaanka la yidhaahdo caana meelo badan baanu eegaynay waxa weeye annaga marka aad aroos gelaysid waa inaad dhowr bilood ka hor ballanta toobka arooska aad samaysataa waxaa jira dukaamo waaweyn oo David's Bridal la yidhaahdo Maggi Sotera qaar kaloo fara badan oo maaragtay designer ah qof walba budgetkiisa isaga haysta ballan baad samaysanaysaa waa tegaysaa toobabkii ballanta marka lagu sameeyo alaabta caafimaadka dabiiciga walaal halkan waxba ku xayeysiinin because already anigi ba business le laakiin hadii aad doonaysid aniga private ila soo xiriir dan ila socodsii waxa aad doonaysid dan markaasaan muxuu ahaydeenay asxaabta u soo bandhigay because aniga mas'uuliyad dheeraadaan asxaabtayda ka qaaday customerkayga majority waa customerkayga iyo dadaan la taliyo oo walaaltinimo adduunka dacladii wallahi waa ku hurdo beelaa inanta midnight iga soo wacda muxuu ahaydeen Hargeysa Puntland Soomaaliya meesha ugu shisheeyay waa wada jawaaba تيان وحد دري كري تيان أنا ندري كرينين بواي وذا سمي تي وحي جيب ستي تيان وحي جيب سن because هو ولا الله ده وي وذا بهاينه ما قرأت مركا أنا أتشوجا مركا قف كهالكربا أنا قول لايف كشري راح كحي يسيستو ده كامية لا يباي واي مؤوجي ما شرها بابينا ناتهاي دد باتشرة دد كهالك كدوف صدوا هبلا يقولي قبل نص قلا إنما نص قلا مركا يلا مركا يانو كبل قلين ورا القف كاسو don't do it again and مركا وحي تليه تصالدو بهانتين إلى الصحرية أنت عشان كجب حياة حاجة تبايع مشتركة winter skinkii ayaa soo galay oo inoo soo socdo fall seasonka iyo winterka ilaa springa iyo guga maaragtay guga xilligan u naqaano oo samarka ka horeeya skinkeenu waxa weeye wuxuu u baahan yahay nafaqayn badan hadda weeye xilliga aan u baahnay inaan wax ka qabano dhibaatooyinka haaraha saliid inaga yaraanayso oo wajiga soo celinayno oo bakteeriyada wajiga p bakteeriyada acniga ama finanka waaweyn caabuqa nabarada fiisha ee maaragtay malxada leh waxaas oo dhan ka soo baxa aynu kaga takhalusi karayna yani wajiga ku yaala ka takhalusi karayna
marka ila soo xidhiira ha ka xishoonina ma garatay haddii xitaa wax natural aad doonto kuu sheegaya waxaad isticmaashay naturalkan kuu sheegaya inta aad kharashkaaga isku keensanaysa ayaan maaragtay kula sii talinaya markaad soo diyaar garowdana alaabtaada iyo diyaaraade walac lagaaga soo siinaya haddaad adress leedahay lagugu soo diri karana walaali hays ha garanin waayo de mudday qaadanaysaa maaragtay intaad waxaanay ku soo gaadhayaan waxay qaadanaysaa week la 10 ilaa 2 week meelahaasi markaad alaabada gacanta ku dhigtana de waa inaad laaziman ila soo xidhiidhaa si aan maaragtay sida ugu habboon kuugu sheego boosta roobo badan baa jira muxuu ahaydanay meelo badan ayaa maaragtay boost maaragtay time yara qaadan karaysa gobolkaaga oo kale haddii aan maaragtay hadduu fog yahay haddii aan maaragtay dadku ku badnayn oo alaabada gaaraysa ayna maaragtay fara badnayn bogsida loo dira dee muddo yara qaadanaysa ama magaalo tuulo aad taagan tahay oo aad degan tahay baan ka wadaa soo samarku waa fiican yahay wax isweydiintu waa fiican yahay anigana ii samra dad badan baa igu xidhan hablaha localka asxaabta waa ii samraan hablaha isteedyada waa ii samraan hablaha maaragtay magaalooyinka naga fogfog waa ii samraan qaarkood ana waa u samraa waa ku noqnoqdaa inta waxaan xidhiir kale noo socdo waayo anigu ku odhan karayaa saliid baad u baahanta iyo kaasa boom iga iibso ma ihi waraysta asxaabtayda oo dhan back and forth ilaa information toosan ka helo oo aan ka gun gaadho waxa problemka ku keenay dhibaatada timaha iyo wejiga iyo jirka waxba kama iibiyo waxna uma sheego iyagana inay serious yihiin ayaan hubsadaa qofkaan serious ahayna waqtiga iga luminayo walaala waqti uma hayo waayo anigii baaba mararka qaarkood hurdadaydii idin sacrifice garaynaya de waxaan jecelahay inanta maaragtay iska kay wareerinaysa waxba iga iibsanaynin ama business lahe doonaysa inay maaragtay macluumaadun iga qaadato de waxaan leeyahay walaalo si kale ii soo weydi si kale ila collaborate garay laakiin waqtiga hayga qaadino inantii walaashay ii baahnayd ee hadda emergency treatment u baahnayd ama haar ku dhigtay ama maaragtay ka daadanayaan uur maaragtay qaaday ama maaragtay hadda uu mushay oo maaragtay temporary alopecia timaha hablaha qaarkood buu ka horhormaa ma garanaysaa de inantaasoo kale diga jeedinaysaa kaamana yeelay marka waxaan idin leeyahay aad baan idin jecelahay hees yar ayaan inoo daarayaa na barnaamij ka soo qayb gala de oo waxaan idin iri iskaabuloy aragtidiina qofka aad ka heshaan muuqaalkiisa soo jiidashada leh ee wacan xageebaad qofka ka eegtaa haddaad xaas tahay xitaa waa okay na anigu xaajigayga xaggaasaan ka eegaan waxaan jeclay nin ismail fiican nin dheer nin ma aragtay muxuu hadana caata ah anigu ragga madow aan ka helaa anigu waxaan ka helaa muxuu hadana inanta ma aragtay kubiya calafa dee waxaan kugu yidhi iskaabulada ha ka soo faa'iidaysta nambarkaan idiin soo qoray barta aniguna xinno yar baan ismarinayaa ila sheekaysta buuggii xinnaha iyo waa kaas xinnihii aan isla hayo haddaaban dee marsan kara wax ilan Sophia, ha حبيبتي ha UK easy daily baan u diraa habli asxaabta reer UK imika waxa way waa fiid ciyaalkii ay caashisiinayaan waa iska jimce qoliya xaasas kale roolimadii bay iska daadinayaan waa dacaayad kowdaha shalay intaan qoslaayo Soomaan dhiman gaarin oo kursi kamaan dhici gaar nama daawatan muxuu haydanay kaftankii shalay toole ilaahay baa igoo kursi ka dhici gaaray markaan lahaa ninkaa ku qaba waa inaad maalin walba weji ula timaada kamaan wadin weji waaliya ula tag qofkii aad jeclayd laakiin waxa weeye de maanta ha ku yimaada adigoo huruud marsan oo jooqan dhagataa بري هكوي ما دا أديكو تيمو كلا دعين صادم هكوي ما دا أديكو بان كوجو سيري هوريكو خمخمة يوم ما فهمت مركا وان السلام يا دمانتين أربعة نص السلام يا هاس دي هرت السلطان سيران باري نوت دارا يا وحيات سؤال قبطان سوق بصدى اللايف كيسوي دي إميكا واتساب كإيجا سو واحد هذا مريكاني كندي أريا ده ندقنتها بليز إيجا سو خد كأن فريمة ورد ليس دري إيجا سو خد كأن واتسابka xinahan yarna aan ismariyo marka aroos baan islaha tago walaashay aan shalay toleeto ku soo iibiyay asxaabay ma taga ha misamay halka ii soo qora wallahi anigu horta waxaan ku yiri qof sensitive ayaanahay fiska soo qof sensitive baan ahay muxuu ahaydeen horta service-kii gacanta aan ka qaban jiray tima hagaajinta iyo makeup one on one ka ahaan hablaha u marinayay iyo maaragtay waji dhaqidii waan yara joojiyay just because
horta dee xaalad aniga ila xidhiidha awgeed tan labaad dadkeena waxay jecel yihiin inay de iska soo wada dul dhacaan hadda mar dhow sheekh baan la hadlayay facebookgana ku jira oo aan arrimo ka wareysanayay business oo isaguna maaragtay business magaaladeenan ku leh wuxuu igu yidhi dadkii koomay ku wada jiraan wallahi kooma ay dad badan ku wada jiraan walaashan safiya tusmo oo ama maalintii dhaweyd hoolaan idiin soo sheegay shalay maaha doraad hoole dee dhakhtarka loola cararay habeen hore oo aad u xanuunsatay iyadoo xitaa war hadda ay iga soo gaadhay saaxiibtayba ay soo wacday shalay ugu tirinaa walaali dhakhtarkii waa laga saara way caafimaad qabtaayo dee ducadiinay ku kacday wallahi ducadiinay ku kacday maasha allah ilaahay caruurteed usoo celiyey waa fanaanadeennii weyneyd de waxaan idin leeyahay inana kaloonu saaxiibnahay baa igu tiri aroos bay ka tumisay weekendhigii la dhaafay iyadana covid-19kii baa ku dhacay iyada iyo faamiligii caruurtii oo dhan wuu wada jiifiyey marka waan jeclahay dee inaan walaasha arooskeeda ka qayb galo marka inaan maaska xidho oo inta dircis ka xidho aan soo salaamo oo soo sharfo oo kasoo baxo mooyaane dee miyaan tagaa arooskiiyo waan ka qayb galaa sida dadkeena inaana kaanamaan waxbaba dhicin ayaa magaaladeena loo dabaaldegaya taasina anuu ma garanaayo ma fahanteen dee cabsina way igu jirtaa ma garatay walaalo anuu nafteeda ma baqay faamiligeygaan u baqanaya ma garanaysa yaa walaalayaa maxaad tirahdeen ha tegin wallahi faamiligeygaan u baqanayaa faamiligeyga qaar baa hadda naga soo booqanayo oo gobol kale kasoo socda isuga timahan iska riixi waan soo dhaqaaway isuga ya faamiligeyga qaar baa gobol kale doonaya inay naga soo booqdaan ay noo yimaadaan xoogay moog tahay so ya maxaad tiri walaalo maan iska joogaa jihaane imise soo wada qora jihaan joog ba igu tiri yuusuf yar ha tegin buu yiri badra ha tegin bay itiri ya hodan waxay tiri covid-19 is real wallahi I agree with you xabiibti qofka aan naftiisa u baqin reerkiisa dadku jecel u baqin waa qof waalana garanaysaa aniguna sensitive baan allergic baa igu kacsan always guriga dhexdiisii ma baxo wallahi ma baxo hodan Sulaiman xabiibti thank you so much hatagin bay iyaduna igu tiri hodan maxamed iyaduna waxay igu tiri iska joog Sahra Ahmed iska joog da walaashay yariisa waan sharfayaa wallahi shalay waan wada soconay maasha horta toob aad iyo aad qurux badan ayaanu soo helnay oo aan kusoo guuleysanay kabihii way soo heshay jewelry way soo heshay wax kasta 20% bay ku soo heshay yacni alxamdulillah rabbil caalamiin last minute bayna go'aansatay moogta inay maaragtay toobka arooska iibsato marka anigu already meelihii horeen u tilmaamay waxaan moodayna mar hore tagtay inay ballantii maaragtay samaysatay in toobkii lagu qiyaasay inay orderkii dhiibatay oo down payment baa la bixiyaa lacag baad dhigaysaa down paymentkaas marka aad dhigatid aamina cabdillah iska joog bay igu tiri farxiya yaasmiin khayr iska joog wallahi asxaabta waa kuwa ila wada talinay huna maxaan sameeyaa Sahra Ahmed iska joog bay itiri yah ayaan xasan iska joog bay itiri wallahi reerkii baa ii imaanaya wallahi billahi taala reerkii baa ii imaanaya faamiligeyga baa magaalada soo gaaraya badra kaliya ta badrahani abi batri iska tag bay tiri waxba ku heli maayaan xabibta insha Allah waa jeclaa wallahi inaan tago waana jeclaa inaan tago believe me I don't know waxaan samayn doono laakiin taladiina waan isku leenahay waanan u baahanahay yah marka toobkii waan soo helnay toob aad u qurux badan iyadoo horta aroosadu waa bitid way gaabanta aan waan yara dheeray xoogay hablaha dharka lagu tiriya baan ahay she's like my baby sister there, you know? Baby sister. Yeah, well, my baby sister weeyaan. Ana idin sheegay. Qof kastiba imika hablaha imika horta maba weynaanaba. That is the problem. Inan kastiba waxay doonaysaa tii ka yarayday goortay dhalatay ogeyd inay iskala dhigto. Please aynu waxa joojin. I love you guys. Like runtan ka hadlaya ma garanaysa. Aamina Cabdi ha tagin bay igu tiri. Safa ma ha tagin bay tiri. Yeah. إلهي تلا سارة بيتري فاطمة عبد الرحمن وإذا صوت السلام I love you guys so much والله thank you بدر وحي قلت لي إن شاء الله واد عافمادي يا أدقو عافماد قباء إسكتك بيتري حكو هلي معي إسكتك بيتري فاطمة عبد الرحمن وقصص سلام يا حبيبتي عليكم السلام de horta heedhe ha teginta ayaa u badan ma garatay because waxa weeya aniga maaha anigu hadda gurigan keligii jooga ma garanaysaa laakiin familigii baa imaanaya
if the family is coming walaalo caruurtii ubadkii quruxda badnaa baa lanoo wadaa ehelkiiba imaanaya dambay u imanayaan wax badan ma joogayaan laakiin waa in iyaga laga warwaraa ma garanaysaa waxa weeye she's my sister in Islam she's my Somali sister she's my customer waa gabadhii yartii habeenkii dhaweyd ii timida alaabada iga qaadatay ya maya anigu haddaan xitaa tago hambaliyada guriga anigu I don't mind xitaa timaha inaan u hagaajiyo makeupka u mariyo waan ugu ballan qaaday waxaan ku dhahay if you want everything ma kaa caawinaya anaaba timaha kuu samaynayo makeupka kuu marinayo laakiin taasi waa okay ma aragta xaggii tegitaankii arooskii meeshii lagu dhigaayay oo restaurantka leedahay inaan saaxiib nahay ya hoolkii loo diyaariyay ma baan ogeyn hoolka inay qabsatay maad ii sheegtay baan ku dhahay anaa walaalo la hadli lahaa ya isuga baan fariimihiin safa joog bay ku tiri iska joog bay tiri COVID-19 is serious bay tiri wallahi waa runtii wallahi sheekhaasi wuxuu igu yiri dad badan baa kooba ku jira anigu waad ogtihiin marka aan ma tago downtownka mostly xagga ma garanaysa suuqayga Soomaalida waxay tiri hiba Hussein basically bay tiri sugan akhriye fariinteeda Ingiriis ku soo qortay basically where I live bay tiri more than 10 people wow mamnuuc and wedding is not allowed from the government absolutely the congregation kama aragtay is dhexgalka saa u fara badan leh is absolutely insanity and tukaankan hadda timahan tagaya mar dhow markaan ka baxo on gabadh walaashay uga soo qaabanaya laba shay oo aad muhiim oo aan saliida u raacinayo u boos gareynayo walaalayaalow lama ogola 6 qof waa tukaanka laysanka aan ku iibsada alaabta salonka naga iibiya 6 people if there's 6 people qofka clerk magarasa gabadha kalkaalisada ee fadhida ma aragtay xagga hore ma aragtay registerka iyo de ma aragtay meesha wax laga iibinayo counterkeena orange war heedhaas waxa la oran jiray tukaanka gadaysa way soo dhaadhacaysaa maaskigeeda iyadoo xiran albaabkay quful dhalam siinaysa waa in albaabka taagnaataa sugtaa intuu qof ka soo baxaayo ama dhowr qof ka soo baxaya dan waad gelaysa markaas ka shopping garaysanaysaa dukaamada waaweyn xariijin ayaa lagu wada dhajiyay inaanad meeshaasi maraynin ama intaa dhistanka aad u jirsanayso maaragtay masaafada qofka intaad u jirsanayso ay tahay inaad u jirsato mask la'aan maba geli karin haddaad maaskaaga soo ilowday inagu shabad baaban huwanaa iyo xijaab saasan ku galna laakiin maaskaygaan qaata hadda maask mara oo walaashay isoo siisay leela caday ayaaban maydhaa on xidhaa marna hoos baan iskaga yara dhiga aniga naqaskaaba igu dhiga walaalayaalow allergina ma leeyahay waan isgelayaaba ya hodan madaxa geli bay tiri ha maaskaaga xiro madaxa geliyo soo noqotaa laftirkeeda horta inaan ka maqnaadaa waxa weeye waa arrin aad iyo aad u culus ma garatay laakiin inaan madaxa soo geliyo soo salaamo oo ma aragtay at least xitaa guriga aan ugu tago waa xaq ma fahamtay ما إلهي وأنت لا صارت أنا جماعة والله أنا ما بقى نا والله أنا ما بقى إله بيجوج I am the most قف وجوم هذا حاجة حتى ما بكون نفسنا كرب بلايدا شق بانقنا اللرج هذا والحرارة دحين زايد أنا مكوي نصور على ما قررنا الساعة لكن واحد ملي فاميلي جبنا الصوب وقنا إيمانا يبقى إذن ليه فاميلي جي عرورتي وطايا إيمانا يا marka family hadda imanayaan waxa weeyaan deen caruurtii ehelka adu baqatay magarso oo ixtiraantid boundary-gooda anigu nafteeda single baana ku dheeli karaa ma garatay wixii alla ii qoray way helayaan laakiin waxaad noqon kartaa sidii COVID-19 is serious wallahi sida ayaad noqon karaysaa aniga iguma dhicin laakiin ina sida ahay war miyaan u hayaa maya weeyaan ma fahantay maya weeyaan wallahi waa taa xaqiiqadu dhagtay cunaysa iga raali noqo داري كوجما شرتو إسكبح ماشي ما بفهم سنيد محمد محمود بلاك باسينا يعني نكاس وأنا يرعي على حب فهمينين واحد سلام يا أصحاب الدمانتين سودا وهذا and على الظاهر تلفونك وصابك أنا قبل يري مركا ما واحد يعني مية صاوعي تنتايو أرين كيف هذا الشيء قفاي صوتري تكست مسج سكا يقول السلام عليكم انت horta wuxuu ii soo qoray hore ma fahmin inta hore assalaamu calaykum ka fahmay wuxuu naagtan jeclaado in dhawaaweyn waa inay lahaataa
love it yeah wuxuu yidhi naagtaan jeclaanaya waa inay indho waaweyn lahaata de waa doox caras baa la yidhi nayaa dhaheen horta arrinkaa taladaad iga siiseen wallahi asxaabi waad ku mahadsantihiin welcome baan idin leeyahay dhammaantiin telefoonka soo qabsada soo wicitama muller soo dhawow my dear brother xitaa haddaad xaas tahay wiil iyo gabadhba magacaaga waad qarin kartaa iyo meeshaad joogta it doesn't matter haddaad sheegisna sheeg laakiin soo qor adigu nooca aad ka hesho inaan ilmaabtinahay baa oran jiray anu caatana wuu ahaa mar hore inaan idiin sheegaan mooday aan waxuma qariyo naa chargerka xaggaasuu ku dhacay ayaanu telefoonku inaga dhimanayna waqti badanna ma haye iga daaya texta mama akhriya soo waca afkiina ku hadla inaanaanu ilma abtinahay oo caata ahaa iyo mutacalim ahaa yaa dee fariin ii soo dir mullerow qofkaasaan ku sii daynayaa isuga asalaamu calaykum inaad khadkood ku jirtaa iyo kor u hadal mawduucana focuska saar salaam asxaabta khadkaa ka xun baanu malay wuxuu yidhi gabadha adeer salaamu calaykum soo dhawo asxaabta salaam welcome khadkaa ka xun inankaa khadkaa ka xun sorry wuxuu sheegi lahaaba kusoo gudbi fariintaada haddaad doonaysa sida kusoo geli waayo waa iska ogahay waa fiid hore waa jimce ehelkii asxaabta waa meel walba dunida dacladeeda lagala la salaamayaa waxyaabo badan lala wadaagayaa markaa horta muller adiga numberka waad haysaa soo wac my dear haddii kale halkan soo qabsa halkan idiin furaya horta arrinka arooska dib baan u yara dhiganayaa sida aad tiraahdeen baan yeelaya waan kasoo fakerayaa waxaan doonayaa qof kastaba inuu maaragtay yacni mahadsanid tamsabka qof kastaba waxa weye dooq caras waxaa la yidhi qof walba meel buu ka helaa anu horta aan idiin sheega waxaan jecelay waanaan idiin furaya qolada reer facebook horta ma sheergarayseen sheergareeya dadka soo jiidaya akhi oo ha la yara farxo siyaasad bayna wareerisay iyo calool xanuune ilka casaw yara sug my dear khadka kaa yara xun mise aan eega mar labaad bal waan eegaya jaaniskaaga salaamu calaykum waad ku jirtaa toos ula hadal asxaabta codka kor u qaad speakerkana naga saar in adeero gabdhaha nooceed ka heshaa ya meesha uu joogo alla khayr ha ku siiyo yarkaasi approve ayaad adiga tahay soogal kusoo boodbad farahiisa faraheed ka heshaa khadra maxaa tiri gabadha buuramanka السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام أنت أنا أدرك السلام عليكم. اللي كان نقطة وحوية حنية شيك ما أنت ويلكم بانكولين هذا. ورجع فرحة كلك تيار هنتضايق بالناشة وحكيها نوع عاجة ما قرأت. أرتين هذا الحمد لله أرتين أنت بعد وناكسن بانهلي أدوفي عن أو قروح بدن بانهلي ما شاء الله. إلهي يبارك هي قلبك هنا هذا والله قلبك سليم كأوي قروح دي طبيعة والله قروح ذا لقوش شيء وقلبك يا طبيعة ويان واحد قروح كلا ما شفته لكن أنا قد دو خيجا واحد يوقف اللانشري إن حوجا دو خيجا واحد آدي وتشعلان عند بقى الرجال دمر بريدة وويل سوري تصل يا وحوي هرت الدمر كادوجا قروح لو ودركم دمر كصوماليين ناس Soomaaliyan inta ka helina de waxba ka siiya la yaab madli ma garanaysaa hay ku soo wallahi waxaan xasuustaa kulay xajada amar baan ka soo qaadanaya way maqlaysaa walaal hay qabsan way maqlaysaa Facebook way ku jirtaa way hadda way dhageysanaysaa xabiibi hay qabsan waxa way waxaad ka hadlaysaa dooqaaga iyo sharafteeda eeg waan may waa kaftamay wallahi waa gabadh aad u fiican oo aad iyo aad u qalbi degan weeyaan وقبل في عموين أنا واحد أدو تعلى مركن هرتو والله بنت وحرام ويان مركن دلكي أن شوقي وحن حسوستا قلبتي بنسوي بحجر قلبت وحن استاجر مالها دتك سوق صباحان سوق وين هي نستاجري وحن
isheedu hadday qabato gabadh bari weyn oo ma garanaysaa saa u socota oo ruux wallahi xilli aan daba dhigtay wallahi ma garanayo xilli aan daba socday ma garanayo horta muller waa geesi runa uu ka wallahi hadlaya yaa wallahi maaha waxaan samayn jiray weeyaan buu yiri mu oran iminkaan ha sameeyaa inankaas yaan laga daba tegin oo la dhibin waxa weeye waxa ishaadu wixii aad jeceshahay ay ku dhacdaa laakiin wixii inta ka dambeeya waa dambi bay shuyuukhda maalin sheegan in adeer maalin waxay ku dhacday wallahi anoo suuqa taagan hay ayaa waxay ku dhacday gabadh aan la yaabay oo wallahi billahi yacni double dhaaf baridu weyn tahay ayaan daba galay wallahi beenta waa xaaraan weeyaan markaan saa u xilli aan daba galay ma garanayo markaan daba galay inan ay waan salaamo markaan way salaanto markaan niqaab yar bay seetay markaasaan ku yidhi assalaamu calaykum bar wacalaykum salaam baytro markaasaan ku yidhi ii war ma fiicanta magacaayo kabacdi waxay igu tiri magaca hebla haddana walaal maxaas baa tahay baan ku yidhi haa xaas baan ahay bay igu tiri kabacdi markii waan kasoo way ma ka hadhay inantii xaaska ahayd waan ka daba hadhay waan kasoo daba hadhay yacni wallahi saasaan ahayo si fiican baad yahay laakiin ku socod dooqeynaan ka hadlaynaa moogtahay wallahi marka يعني waa dooq aniga igu qufulan aan badhigeyga raacay waxa weeyaan haddaan gabadh arko bari weyn aad u bari weyn haddaan arko goor aan daba galay iyo goor aan daba socday wallahi ma garan karayo aad iyo aad sheer gareeya barnaamijyada fiican ee kaftanka iyo qosolka hala sheer gareeyo ilaa weligeena dhaqankaa waan lahaa oo ma garanaysa markaan dalkii jooga bay ahayd inkastoo halkan iyo qurba marka wallahi aniga dooqeyga igu weyn maskaxdayda dhex galay waxa weeyaan waa gabadh weyn ee bari weynaata ceebna maaha dee gabadh bari weyn oo dhex yar wax horta heedhe dhulka aad ka soo jeedaa gabadha adduunka ugu quruxda badan ugu qoorta dhaadheerba ka yimaadeen la yaab meelhiid baan kugu yidhi in abtiya ku soco marka xilliyada igu darneeden xilliyada galabtii oo kale magaaladu waxay soo baxda markuu casarku qaboobo dhulku markuu yaro qaboobo gabaldhac xilliyadaas oo kale suuq haddaad soo taagto inanba inantay ka qurux badan tahay waxaas odhanaysa war gabdhahan xagay ku xaraysnaayeen wallahi waa diyaabiba subaxii guryaha lagu wada jiraa galab inaad iska ilaalinaa maalin oo dhan baa sidaa wax laysku marin laysku shuqlayaa moogtay marka hanala yaabin marka haye ha wallahi waad yaabaysaa oo bilaahi marka mala dee ma waxaad moodaysaa hal midun xiblaay mid markaan gabadh aan arko aan daba galo aan kabacdina aan soo laabto ay ii noqon weydo oo yacni tiraado war iga joogso stop no shukans oo waan xormay waan soo noqon karaa haddaa mid kale waan dabageli jiray saasaan samayn jiray marka maxaad raadinaysay bal aan ku weydiiye maxabadaad guursato oo aad maaragtay nimcada ilaahay ku hordhigay ku hormarisa aad ka soo qabsato yaa horta waa run haa nimcooyinkaas baan aad u raadinayay oo weliba aad iyo aad aan u daba dhiganayay tii igu yaabka badnayd maalin waxay ku dhacday ilan allah niyo ilaahuna astur adaa weyn waaxid isuginabti in yar dadka waxaan rabaa inaan u sheega inay kaftan iyo dooqa qofka tahay kama hadlayna faaxisho iyo ceeb hadda eegyaa iyo wax xun markaa la socdo barnaamijka qofka lamaanahaaga dooran lahayd xaggee baad ka eegtaa weeye qofka aad nolosha la wadaagtid marka aad barnaamijka la socda yaan hadhow ceeb lanaga daba qaadin waa jimce waxa weeye muxaadar aan dhegaysanay waxa weeye waxaanu doonaynaa inaanu ka hadalno dadka qof walba dooqiisa oo ah ka daruuriga ah qofka soo jiidashada ugu horeysa qofka aad ku dooratid ku socoynaato dadkan waxu sheegayay ها صح مي ها dadku may entertainment baa lagu jiraa kaftan baa lagu jiraa Soomaaliya meesha faaxisho laguma jiro laakiin nin walba dooqi soo ka hadli kara ninka iyo dumar baa la daba galaa la xumaynayaa la socda asxaabay kaftanku waa furan yahay yaa wanaag baa lagu daba galayaa la raba in lagu shukaansado aye ha may wanaag baa harun la daba gala marka waxa dhacday maalintii ugu yaabka badnayd waxay ahayd ee aad kaan u yaabay gabadh baan daba galay share please gabadha mala waxaan daba socday horta markii ugu horeysay ilaa 15 daqiiqood baan saa u daba socday stalker baa tahay ma la yisiri xoogay yaa inanta ma dedejisid socodkood gaadhido yaa wax waa tii dambiga ku yara socotay xoogaan kugu yara qarxiyo ku soco ma horta waa yar indheeyay markaan indheeyay ciladan lahaan waxa weeye markaan isha ku yar dhufto baan daba galayba marka warba iskumaan haynin inantii maasha allah inantii horta waan daba galay isuga wax yar isuga muller baa ku jira waan idinka qaban doonaa hay ku socina inantii markaan daba galay horta waxaan helay inan ah
inan ah oo aanba weligeed la guursan baan arkay maasha allah oo صح qurux badan صح markaasay ku idhi maasha allah oo waxaan ku idhi say dadku kuu nabadgeliyaan oo ma garanaysa waa maxay seed uga badbaadaa waxay inantii ku هاي tiri هاي malaha maalintii haddaan gurigaba kama soo baxa bay tiri markaan saa u هاي soo baxaba ilaa konton baa isoo garab dhigta bay tiri nin ayaa igu soo barkin garaysta isoo daba dhigta bay tiri adiga iguma cusbid bay tiri وإن أدب لندن إن دع يا وحاسي هاي سيدا كلها هذا الشعب يا ما شاء الله هاي aduu inantii waxaan ku idhi waa run inan cajiibo aada u qurux badan baa tahay oo aada u fiican inantiina run baan u sheegay waxaan ku idhi gabdhaha inta dambe weyn baan aada u jeclahay sidii maareey oo yidhi oo kale odaygii muqdisho joogay maareey مثل ما joojin karayeen wallahi ana sida inanka igu yiri naagta aan ka helo waa inay indho waaweyn lahaata aniga wax kalaba iguma baxaysa haye adigana waa allah aniga indhayo waxaa ma eego indhaha ma eega inta dambe laga eega inta dambe midda xigta malaha dee dadku isku inaanti wejigana yaa may wejigu dhib male inta dambe khatar ah intaa dambe hadday weyn tahay waa khalaas ani wejigii waxaas waxba ii tari maayo wallahi billahi beri ilaa labadii kun iyo afartii saasun baan u daba socon jiray maasha allah laakiin labadii kun iyo afartii de adigaaba hawshaadu fara badnayde yaa horta carabkana waa cajiib laakiin waxa weeyaan soo tilayri markaad daba gashaan markaad aragtaan eed ka heshaan foorarsada adiga dabagalkii baad ku jirta waabad ilaawaysaaba maystiri wallahi anu meel kaleba inanta kamaba arkaba kama fiiriyaba xaggaa dambe baan eega xaggaa dambe hadday aada u weynaato gooraan daba galay maba garanayo la yaab malihid walaal anigu inamada dhaadheer baan ka helaa ma fahantay caadi weeye taasi aniga dookhaygu inamada dhaadheer baan ka helaa laakiin ragga maskaxda le baan aad uga sii helaa runta haddaad doonaysa waa run ha qofka gabadha u fikiraya ayaa fiican oo inantii la dadaalaya oo maskax fiican baa fiican laakiin dad walbaaba dookh bay leeyihiin gabdha waxaa jira kala dookh badan leh oo dadka gabdhaha inta badan waxay dhahaan ragga dhaadheer baan jecelna xoogan weliba inaad anigii baa dheer xoogay wax ma kuu sheega anigu ma gaabni kaba qaraafiicana waan isku rari jiray oo dee maya adu waad dheertay maya adoo taagan waan ku arko waad dheertay maasha allah waad gabadh aada u dheer baa tahay naafti ilaahay ha ku barakay ninku inuu maskax igu kasbado asxaabta sheergaray waad mahadsantihiin intiina qoslaysan halkaas ka arkay laakiin hadhow baan akhrin doonaa anigu waxaan jeclay dheerarka laakiin ninku inuu maskax badnaado oo diin lahaado oo maaragtay nin taliya oo geesiya inuu ahaado anigu meelo kala ragga bidaari ima dhibto midab ima dhibo laakiin waxa weeye bidaarta timahan baa la xiraa dhib male timaha waa la mooleeyaa oo xitaa raggu hadduu timaha iska mooleeyo dhib male waa kusoo baxaya nin ragii laakiin war madaxiina haldadaloolinina oo chemicalka iska ilaaliya waxa laga qaada xanuuno waa talan siinaya wallahi billahi jidhka inaanti tima beerashada maad ka soo horjeedaa dee ragga anay rabaan inay kula ful noqdaan kalsoonidooda dhisaan intaa kama soo horjeedin wallahi waa khatar timaha madaxa la daldaloolinayo ee la beerayo oo dhibaato ay keentaa waa halis weeyaan waxaan leeyahay laga foojignaado hadday bidaar ku gasho timaha wada xiro ninka ragga hadduu xiirto xitaa uu ku qurux badan si kas ila ninku naaga maahay waa nin weeyaane anu ima dhibto inaabta anaa kuu sheegay hablo badan oo inay dhibinna way jiraan oo ragga intelligentnimada iyo kartinimada iyo waxyaabo kale ka eega laakiin hadduu qof kalsoonidiisa ku dhisanaayo diintana ayna kasoo horjeedin wixii estetic aanu kama soo horjeedo wixii ilaahay abuurtiisa lagu bedelaya xagga midabka iyo waxyaabaha kala necebahaye naase gabadhu samaysato oo ninku isbedelo gabadha iska dhigo waxaasaa kasoo horjeedaa waxaan odhan lahaa haye markaa alaabtaasaa daba geli jirtay adigaan kuu soo noqdo alaabtaasaa daba socon jirtay wallahi anigu alaabtaasi aad baan u dabageli jiro xagga lay waan ku dakrami jiray midda xigta waxaan ahaa ragga ku dakramay is ilaawo baan ahaa oo ma garanaysaa gebigiisaba goor aan daba dhigtay xitaa inantii oo weji xidhan ayaan daba dhigan jiro waxba kama garanay marka xitaa gabdhaha qaar igu yidhi oo wejigayga ma aragtay seed nagu aamintay wallahi qaar baasaa igu yidhi seed nagu aamintay dee maya jidhka inama badan mar haddaad nin tahay oo aad adiga dee maaragtay runtiina inamada ugu cadcadeen golaha bulshada oo ra'yigaaga de xagga ilbaxnimada iyo ra'yigaagaba aad mar walba la caddahay ma garanaysaa ma kugu raacsan yihin rag badan inay ka helaan gabdhaha jidhka leh ee siiba qaarka dambe u weyn
ragga Soomaalidan ka hadlaya walaaladeen ilaan adaa raggi ku dhex jira anaga rag ma nihiin gabdhuhu ra'yigaaga ay rabaan niyo ku koobnayn baa rabaa inay ogaadaan horta walaal aniga inta badan horta asxaab fara badan ma lihi oo kuma xidhni amba rag ha noqdaan asxaab fara badan yacni kuma lihi oo yacni kuma xidhni marka waxyaalo badan oo aan iskugu iman baa jira oo ma garanayo aan si fiican isku laakiin kuwa ii dhow aan isku ilmaadeernahay oo ma garanaysaa isku reernahay baa jira oo rag ah oo iyaguna dooqan oo kale leh oo ma garanaysaa iyaguna habeenkii oo kale meelaha intay tagaan iyaguna gabdhaha dabagala way jiraan dabagalkaa naga daayo si fiican noo soo dalo dabagalkaas wuxuu noqonaya isbaakin oo baqnin weeyaan haddana hareerkeedaaban eegaya dabadeedaan eegaya moogtay horta xijaab waxba ma akhriyo ma qariyo kowdha gabdhaha hadda waxaa la odhan jiray gabdhaha sacuudi arabiya imaaraadka xajabin weeyaan waa ina la mid iyo yeman iyo ooladaan rag maxay ku gartaa naagta quruxda badan waan garan karnaa bay yidhaahdeen bal astaamaha noo sheeg waxaad tidhi jirkeeda waan garan karaa inay gabadhaasi gabadh shidan tahay ya sax haa waa la garan karaa dee gabadha haa waa la garan karaa indhahaaga ku macallin ah iyadoo xitaa weji xidhan oo niqaab xidhan haddana dharkii ay sidatay iyo dalladii ay sidatay ayaa intii dambaa ma garanaysaa weynaanaysa oo dalladiina xaggaa dambe saa markaa qofkii aqli leh wuxuu noqonayaa muxuu ahaa wuu isbedelaya oo gabadhii buu daba dhiganaya oo gabadhii buu leeyahay ka waran anigu heer waxaan ku sigtay anigoo burco jooga ayaa qiso ay ku dhacday horta beri hore bay ahayd anigoo burco jooga weliba beriga xaasna aduu gabadh baan kala tagnay burcan joogo berigaa gabadh baan kala tagnay gabadh baan meel ka arkay suuqaasan kasoo raacay gabadh meel dahablaha nin inadeerkayo dahablaha gabadh wax ka iibsanaysay ayaan arkay marka waxaan arkay maasha allah de inta dambe oo aada uga dambayso aad yaabaysid baan arkay oo cajiib ah inantii midba idinka baxsan mayso inantii baan daba galay oo horta may numberkan ka qortay inantii markaa numberka ka qortay way aduu cabaar baa yara daba socday markaa daba socdo numberkii aan ka qortay waxaan ku yidhi xagga dukaanka dahablaan kaa soo raacay baan ku yidhi halkaas xaafadda halkaas waxaan deganahay baan markan meelaha maraaye ilaa waa waxa la isoo daba galaya qofkan muxuu kuu daba socdaa bismillah dalka taga kabacdina inantii waxaan ku yidhi wallahi ben ma sheegi mayo xoogaa lacag yaroo $2,000 ayaan wax lacaga haystay inantii baan ku yidhi hadda ma ismehersanaa alla ilaah de xalaal baa doonaysa inaa abtid maasha allah inantii wallahi gabadhii way iga shakiday oo waxay tiri hadda ma noqonaysa inoo kaadi inay ku yaro baratay rabtay laakiin adiga dee waxaan kugu yidhi waabad qanacdayba kabacdi gabadhii waxay samaysay way diiday habeenkii horta waan israacnay oo gurigooda bay igu ballamisay haddaan diyaar ahay baan ku yidhi wallahi waan diyaar garoobaynaa in hadda aan hawl gallo oon caadi weeyaan kabacdina inantii adigu way iga shakida way diido inantii sii baan ku kala hadhnay de hawshii markaa saas maalintaasa igu yaab badnayd oo ay soo martay weli maalintaana diyaarna waan ahaa horta wallahi jacaylkaa degdegi maya jacaylna maahayn wuxuu ahaa jacayl dareen buu ahaa jacayl dareen wuxuu yahayba gabadha quruxdeeda ilaahay baa baneeyay inuu ninka ku guursan karo marka taan waxba kama odhan karaayo laakiin hal mar baad eegto waad foorsato xalaal baad doonaysa intaasaan kugu hambalyeynaya inaad de waxaan ogaa de gabdhaha soomaalidu ma iyaga gabdhaha soomaalidu inta badan de mustaqbal bay raadiyaan wax kale ma yaqaanaan ma ogta de waxaan siri intay bilaa macni kaaga baabi'i lahayd bar gabadhaas aan dhamayso gabadh aad u qurux badan bahayd laakiin inta dambe aad u weyneyd intaasay bele ku dhigtay inantaas marka waa sidaa sax ku soco inaabti marka inaabti waa sidaa weeyaan insha allah dad badan balkan ka cabaadayo raba inaad soo qabatid bal iyaguna fikirkooga ha dhiibtaan laakiin de meesha ha caytaminaya si fiican sida ragga u dhiibta insha allah rag maba arag cid caytamaysa dadku way qoslayaan way farxeen way kaftamayaan wayna ogyihiin inay tahay dooqa qofka oo inaan sax markaas waxaanina waxaad soo samaysay maaha waxaad imika samaysan nin xaasabaa tahay oo marwo
quruxda ilaahay siiyey kula joogto adaan kuu soo noqonayaaye ma raba si yar inaad iiga baxsatee si hay yar iga baxsata ma rabe kowdhe hay hay markaa nin qurux badan oo laf weyn baa tahay oo de waa lagu khaawisaa kowdhe hay habluhu markaa maxay kugu yidhaahdaan hablihii ku shukaansan jiray markaad isbaran jirteen ilimika waad ka baxday khadkiya waa lagu yeeshay naayaha ka daba tegina ninkaasi waa nin marwo haysta okay suuqan kaa hay xidhaya laakiin markii hay horead sinka ahayd ila nin qurux badan baa toobataa lagu wada jeeday inaad tiye maxay hay hablihii aad soo shukaansatay markaad waraysateen aad sheekaysateen aad gacanta ku dhigtay maxaan kaaga helnay ku odhan jireen bal adiguna taa noo yara dhiiba hanaga baxsanin okay haddaan runtii aan xaqiiqiyan idiga sheego kow waxay iga bilaabi jiray marka hore ma soomaali baa tahay haye kow ma soomaali baa tahay xaggeed ku dhalatay bay ayay odhan jireen laba haye haye waxay odhan jireen soomaalida iskuma tihiin isku dhaqan ma tihidiin isku bahal yacni isku style ma tihidiin maxaa markaa adigu xaggeed ku noolaan jirtay waa kelmadaha u badan ee lay weydiin jiray haye waa kelmadii u darnaa ay soo maray naga laf weyntay soomaali mad ka laf horta waad ka laf weynta waan ku arkay laakiin dherarkaaga waa imisaad u malaynaysaa dhararkayga waa mitir iyo 90 oh waa dheerta nin dheer baa tahay 6 feet plus baa tahaan u malaynaya markaad qiyaasta mitir iyo 90 weeyaan ha ha marka wax su'aasha laakiin su'aashan la yaabi jiray waxay ahayd su'aashaadu ay igu celcelin jireen gabadh ka soo barto waxay oran jireen kow ma soomaali baa tahay laba xaggeed ku soo kortay bay oran jireen xaggeed ku soo kortay waa leedahay dhiig soomaaliya nin lumaya ma tiida anigu ma afgaranayo bal ku soco sheekada xoog xaggeed ku soo kortay xaggeed ku soo kortay bay yidhahdeen xaggeed joogi jirtay barwarkana si marka intood badan saasay ahaan jireen laakiin gabdhaha inta badan maasha allah gabadh kastoon isbarna wallahi isma diidi jiro gabdho waxaa jira soo maaha ku diidi kara oo wax walba kuwa yacni kaa carar kara laakiin gabadh kastoon isbarano weligay isma diidin ismana diidi jirin maasha allah annagoo dee calaf ku kala tagna mooyaane sax isma diidi jirin si fiican inaabtay aad iyo aad baad u mahadsantay waan ka helnay sida sharafta leh aad noogu sheegtay dookhaaga ee aad maaragtay u tahay nin hantii gabadhu jecel yahay oo mar walba isagoo reerkiisa wata soo dhiga kala xishoonin aad tahay aad baan kugu hambalyeynayaa anigana yaa dee aniga laftarkayga dookhayga waan idiin sheegay asxaabay waxaan jeclay qofka yaro dheer maskaxda badan midab ma eego waxa weeye isagunba aniga kasban kara ma fahanteen nin de qof iska caadiya oo gabadh dhaqan karaa fiican oo gabadhii aan ka tegin imika inta badan cillado badan baa soomaalida lagu arkay khaasatan ragga halkan gabadhii la joogto gabdho kale u raadinaya tii kale ka tagay hadda mid kale waa yara waa dad aad u yara dhiig qabo baan siri dadka soomaalida ma wanaagsana adoo tan aan qancin mid kale seed ugu tegi ood qancin ood u raadin de waa dhibaato weeyaan marka waad wareeraysaa inaabti waad ku wareeraysaa qof kasta ilaahay power muu siinin capacity horta qofku dookyo badan wuu yeelan karayaa rag baa maamuli karaya dumar fara badan dumarka qaarkood baa dookoodu proud yahay anigoo kale ah dhararka waa jecela yes laakiin waxa way shakhsiyadda iyo qofka bini'aadmiga san isku fahmayno daacadnimadaan jecelahay more of a character than a like a visual ayaan jecel aragtida qofka waxay iga dheer characterka laakiin soo jiidashada qaxda hore indhaha qofka ku dhigo cabdo cali warsame iga qosliye abti da iga xisho abti nin abti bay waa nin kafta badan ninkaas waa nin kafta badan waa abtiga weeyaan cabdo waan ku balogaya haddaad waxaasoo kale ku hadasho wallahi ma baloga miyaa taqaanaa ninka waan balogaya horta bay da waa abti wiya wallah dhaqan xumaanan ogolayn in meeshan abti kada ceeb abti garaynayaa messagekaaga dib ha ugu soo qorin waxaasoo kale meesha okay abti kada meesha adnaa lagu soo qabto hadal mar haddaa lagu garanaysa wallahi madaxa aan ku dhaafay laakiin waan mar labaad buu soo qoray waan abti mad marqaantay waa ku sidee subxaan allah ka daaw aniga kule ma abti buu kuu yahay hadduu deerar abtigaa naga qabo marka adigu waxaan kugu idhi yaan laynaga dhaqinin cayaarta si fiican baad u waday waxa weeyaan anigu waxaan jecelahay qofka dheer waxyaabaha ishayda marka hore ku dhacda weeya waa ishayda hore qacda ugu horeysa dheerarka ismailka quruxda badan leh
hadalka raganimada waxyaabahaas anigu qofka ku qiimeeyaa bidaar iyo midab iyo waxaas ma dhibaan laakiin isha ugu horeysa maaha wax garantiya oo qofkaasi aan yacni ula sii wadi karaayo xidhiidh ama aan maaragtay yacni dadka uga doorbidaayo dee waad mahadsantahay horta dad baa soo xiiqaye thank you so much waxaan leeyahay nin qurux badan baa tahay waad ogtay inuu daba socdo waxaan idin ninkaas gabadh yeeshay weeyaan yani xaajiyadu masayri adiguna in adeer gabadh qurux badan baa tahay maasha allah adigu taagan baan ku arkay maasha allah inan discipline midda xigta dabeecad baad horta mid baan kaaga yaabay inaabti kow niyo diintana aad baad ugu fiicanta xagga diinta aad baad ugu fiican tahay maasha allah adigoo hawshaada iska wata oo haddana qurux badan oo stylekaaga oo fikirkaaga maasha allah fiican haddana diintana waad ku fiican tahay maasha allah sidaa halkaa ka wada inaabti aad iyo aad baan kuu salaamaya thank you inaabti waxaan jecelahay dhalinyarada singalka inay singalnimada ka baxda in la kaftamo in la qoslo in la cayaaro wallahi anoo makeup marsanay dhahda dhalinyarada soo galaa yani waan jecelahay wixii aad wanaag la jeceshay naftaada walaalkaa la jeclow qofkii xaasana waxaan idhahdaa xaas weeye waxaad gudbina marka aad baan ku salaamaya thank you my dear mahadsanid hay السلام عليكم عليكم السلام أصحابي سو dhawaada jimco wanaagsan dhamaantiin walaalkay si fiican ayuu inoo gala tahay fariimihiina aanu noqonay horta hees jacayl aan idin saaray balsuga fariimihiina waan akhriyaa cid iga baxsanaysaa ma jirto asxaabta iga soo wacay telefoonka tooska iga daaya intiina whatsapp soo gashayna waan idin soo jiidayaa inta walaashay aan jecelahay allah yarxamar raaximiin xamdi yaray u saaray sawirkeedana aad baan u soo dhaweynayaa because waxa weeye qof qaaliya ay sawirkeeda soo saartay wallahi waan jira dhacooday waxa weeye nolosheena way socotaa laakiin waxa weeye dadkaynu jecelnahay inaan xusna weeye ma raba inaan ooyo laakiin awgeed baan u noolaanaynaa awgeed ayaan u noolaanaynaa awgeed ayaynu u noolaanaynaa mana la ilaawaayo marnaba lama ilaawaayo hadalkayga isku darsanay xitaa wallahi alcadiim sawirkeedaasi wallahi billahi qayru geliyo oran bismillah. You guys know I'm an emotional person, but anyway. Balso qabsada suga bal. Hees baan inoo dooraya fariimihiinaan rabaa inaanay dad iga baxsan dad hadda ka booteynayo bartaasi ya iga baxsan suga bal. Allah ilaha ana idin haya horta thank you so much asxaabta dhammaantiin wallahi you guys make my day yeah you guys make my day waxa weeyaan haddaan soo galo xitaa anoo huruud marsan baa idin soo hor fariistay oo isla gabdhaha la sheekaysto oo asxaabtii ay maaragtay soo wada gashay heestan ila dhegeysta allah u naxariisto qaalideena iyo rasug walaala macaanay waan ogahay waan soo wacaysaa in badan rasug raali noqo heestii mataantii jacaylkan inoo daaraya because waynu u baahannahay dhegeysta يرسوغا هيك تشرينا خطك يرسوغا هاسكي هذا So beautiful, someone. Rana Gula, I love you too, darling.
كادي أصحابي وان أركيا بليز وحوي حنها يرنا ونرسنا ويرك هذه هسه هنقتشرنا Thank you. Welcome, welcome, Asxaabta. يا سلام ما كهشان الله إلهي الله شعيلك واسدا سده يا ورحينها المبوض كران وربنا نيشك والله العظيم آد بان دي كفر حاموك أصحابك إنها وامرين جري وان كهب صاني موت وان كهر إمك حوشي سابضان
laakiin marmar waa isku mariyaa aniga dee gacantan uma isku mariyaa inta kale waa khaldayaa mo anoo kuu sheega dad naftaada ku mashquulsho adduunka wax ka fiican ma jiro anyway asxaabta aan maanta dhan isoo wacaayay baan soo jiidayaa ilan barnaamijku waxa weeye xiniya sheeka yaa ugu horreeyey isuga in yar salaanta ha ii dambaysa asxaabi ciddii isoo wacaysay telefoonka koolka soo waday inankaasi waan ka qaban kari waaya inankaan ku celinayaa walaalkay hadduu inaga qabto jacaylka kala maqnaanshaho dhib badana wallahi jacaylka kala maqnaanshaha anigu maba ogoli saaxiibeel ma arkaysa intaa yana ismarinayo ma ogoli hadduu inaga qabto walaalo waan kusii daynaya khadka foosiye xasan caliya waad mahadsantay xabiibti adiga lafirkaagu xagganaan kaa abruuf garaynaya waan eegaya inanka wuu qaraacmaya nambarkiisu ma qabanaayo markaa walaalaan gelinayaa jacaylka kala maqnaanshaha kaasaa ugu xanuun badan waa waxaan long distanceka ugu necba qof aan soo gaarin arday uma ihi inaan ka mid noqdo ardayda ma aragtay kala maqnaanshaha ya ardayda kala maqnaanshaha jacaylka walaal dad badan baan ku idhaahdaa inaga daaya aamina cadow waan kusoo qaban doonaa xabiibti walaalaan eegaya inuu u soo galo hees kalan inoogu wadayaa oo suldaanka uu inoo wado jacaylka kala maqnaanshuhu waa dhib miidhan waxa weeye waa la kala baadayaa aniguna waxaan ahay qof aaminsan oodkaa dheer kuma dhaxan karto runtuna waxa weeyaan qof kaa fog xitaa inaan waxba u qaban karin baa laga yaabaa oo adigon qalbi xanuun zaa'id aad isku soo jiidaysid ma garatay marka maxaad qofkii nolol wadaagi kartaan haddii aad sharci leedaho yurub iyo canada iyo areadan oo dee dhoofi karaysid yes laakiin qof kaa fog oo ay tahay inaad dalkii ka soo kaxaysid anu waxaan jecelahay qofka dalkii jooga inuu guursado qof dalkii jooga wallahi noloshiina sida ugu habboon eed maaragtay isku baran karaysaan oo isku jeclaan karaysaan ood maaragtay reer ku abuuran karaysa arsaaqada ilaahay baa haya dhoofna waxba ma taro laakiin ta ugu sii liidataa waxa weeye inaad qof soo lugayso ama aad istiraahdid dhowr sannadood labadiinaba nolosha kaxada si aad qofka usoo kaxaysid marka waxa weeye intaanad meel fog tegin ka raadso qof meesha iyo eriyada iyo dalka aad joogta ama dalalka u dhow oo aad soo gaadhaysaan ama isaga ku soo gaadhi karaayo xumaanna maaha taas iyo maaragtay takoorid maaha laakiin adigoo silic ku noolaada oo ooyo oo muraara dilaaca annaga way adag dalkaygan sida lagu soo gala haddaanad baasaboor ajnabi haysaninoo European ah ama Canadian ah way dhibaato badanta inaad soo gashid waa runtaa soo maaha soo runtay maaha samiiray waxa weeye waa very difficult hees kalean inoo daarayaa oo axdi dhowre la yidhaahdo weli Mr. Seeraar baan ku wadaa inta heestaas aan inoo raadinayana waxaan rabaa inaanan darro u soo jiidin dadkii aan jeclaa ee isoo wacaayay imika soo heesta ila dhegaysta qofkanaan rabaa inaan ka qabto السلام عليكم سودو واد كجرتا برنامجك ولا لما كوغو سي دايا والله كجرتا برنامجك سيتا والله الحمد لله في عنا يا اصحابتي كو مقليان مغعاغي ميشا اد جوجتid ku soco والله الوقت عنا مغعاغي waa Salman Yare haye Salman Yare welcome وهاي كومبوس جوجا no way haye ما شاء الله في عنا لمبرك لكن لمبرك وكانساس لكن واحد جوجا وهاي كومبوس haye وفي عنا ما شاء الله والله سيت هذه محايسة حكايات anigu life baan ku jiraa ma akhrisatay mawduuca aan ka hadlayno qofka adooqaaga ah siduu u eg yahay badna la wadaag okay actually qofka dooqayga waanu ani like qawma ma kad ya qofka gabadha dooqayga waa kala soma ha qofka dooqaaga ka hadal saasaan rabnaa okay qofka dooqayga waa like ani hatta gabar dheer duuban لكن أبوهين ما شاء الله أروح كلر ما كلا جالي لكن مدو داك سايد مرة like مارين عادية
gabadhaha maariinka abaad ka heshaa codkaaga kor u dalac si asxaabta kuu maqasho speakerkana iga saar please ya maalinka gabdhaha maariinka ah oo caatada abaad ka heshaa sukar basaartan hagaajisanaya ku soco waa lagu maqlayaa codka afka u dhawee telefoonka thank you so much haye marka intaasaa ku haystaa nin kale ma jeclin haye hablaha noocaasaa ku haysataa miya ma lana haysta maada haye marka intaa ku haystaa gabdhaha adiga sawirkaaga haaf baa maqan whatsappka adiga soo wacday gabdhaha ku soo waca maxaan kaaga helnaa bay ku yidhaahdaan badanka okay aniga sawirka haaf baa maqan laakiin wejigu iska caadi okay wejigu waa salay gudaal malki caadi oo saas u duubanahay saas ilaabtasahay sawirka shalan gala kaasba single miyaa tahay mise married baa tahay adiga weligay ma guursa arday wax bartaa arday wax bartaa tahay maasha allah ardaygaa wax barta haddaa tahay ma rabtaa in lagugu yaaco because hablo badan baa imika oranaya wiilkaas lifeka soo galay yaa aan ka farqabsanne ma arkaysaan loofka idinkaan idinku qoray meesha asxaabay ku socda haye suga hanaga jarina khadka asxaabta life baa lagu jiraayay haye ku soco walaalo diyaaraad u tahay maasha allah welcome baan ku leeyahay aad baad u mahadsantahay inankan waa reer Columbus Ohio gabdhaha caatada baan ka helaa buu yiri ya aadna u madoobay maariinka ah haye maxaa kale ka heshaa gabadha xagga maskaxiyan maxaad ka heshaa okay gabadhu waa inay lahayd qof iska furnaata faniya qof faniya waa inay ahaataa like xanaaq badnayn camal gabadh habiyaad jeceshahay adduunyada qof habiya ugu fiican moogtahay haye ku soco intaas wax dhaafsan malaan maasha allah okay aad baad u mahadsantahay waan ku soo salaamayaa insha allah waan ku seef garaynayaa waan ka soo qayb gali kartaa doodaha dambe ee socda mahadsanid haye walaal macna single soo ma tiid horta gabdhuhu yaani haddeer kugu soo yaacin single ahaa waayahay aad baad u mahadsantahay wiilkaas waa single weeyaan xaggan fariin soo dhig live-kaad iga daawanaysa dadka kaa bartaan gabdhuhu aad baan kusoo salaamayaa haye salaamu calaykum ايوه هذا دير على لا فيس شركه ما فيسبوك ده وكو ادنا ويغا بخا درميلو اد كره واي waa inaa share garaysaa live kan because waxa weeye gabdhuhu say ku soo helayaan هذه شركه انا سي شركه انا عمال ويغا بخبا لما سو عدنا وكل فيسبوك واي haye waayahay loofka farta saartay ma arkaysaan waan soo dhaweynaya inta single cordon mahadsanid maaya bowi thank you so much haye bye macna insha Allah haye inankaasi waa localkayaga aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa iftiina macallin soo gal isqarxi haddaad single tahay iyo haddaad raadis tahay waa kusoo dhaweynaya adiga laftarkaaga asxaabta fariimihiina ma akhrin karaayo wata qofka ka labaad baan ka qabanaya insha allah walaalana isagoo ka saxayna waa qoslaysaan wallaahi weli okay khad kale ay nagu soo dhacaya السلام عليكم عليكم السلام صورك كو سارن كما هلينا ما نربو umada inaan tuso laakiin ujeedada ayaan ka raacaya barnaamijkan walaalo waan ku soo dhaweynaa noo sheeg meesha ka soo hadlaysid iyo waxaad rabtid barnaamijka inaad ku kordhisatid انا waxa ka soo hadlaya Ethiopia in adeer haye assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة haye maxaad ku soo dirsan lahayd barnaamijka markaa waayahay gabdhaha nooceed ka heshaa inagoo xishmada iyo edabta iyo dhaqanka ilaalinayna waa sawirka ku saaran kama helin whatsappka ku soco aan waxba ma qariyo way yaqaanaan dadkani waayo ku soco maxaa jiray oo si fiican anigu horta waxaan ka helan taqaan haye Soomaalida horta mid maaha waxa jira qaade dad kale inuu laba mid inuu kala dhaqan mid haye tana waan ku jiray live kun yara daawani haye in adeero dad badan oo hadlayna maqlay haye arday isku dad ma qaar waxa ay kale absolutely marka anigu waxa horta mawduuca samaad soo akhrisanin mawduucu wuxuu ahaa adiga soo jiidashada ugu horeysa qof nooceey ayaad ka heshaa ma fahanti de waa kaas marka waan ku update gareynayo ku soco ay tira maxaa jiray gabadh horta waanay
عقلي عادي طبعا haye marka waxaan horta ruux lama eege caqliga laga gabadha maxaa la yidhaahdaa codka kor u qaado speakerka naga saarsaan kuu maqalla in adeero ku soco maxay tahay gabadha horta qurux lama eege waxa la eega caqligeeda inanta caqligeeda adiguna caqligaad jeceshay ku soco haye marka waa saasti laakiin soo jiidashada qacda ugu horeysa maxaa indhahaaga ku dhacay ilaan qof walba dooq buu leeyahay inaad tiyo ilaan taa waa kula fahansanahay ma fahantay laakiin waxa weeye qof walba dooq buu leeyahay oo dee qacda ugu horeysa qof ku dhacaya indhahiisu ku dhacaya ma fahantay inankaa muud buu ka yara galay waxa weeye weli waa feed laakiin wuu inoo sheegay waan ku jarayaa inankaas wuu inoo sheegay inuu maaragtay jecel yahay gabdhaha caqliga badan leh oo aanu discrimination ku samaynin laakiin indhihiisa qofka sidiisaba waxbay ku dhacaan xinihii waanigaa weli wada waa la yar qurqurxinaya waa la yar hahabaynaya gacantaa keliya ataan marsan karaya anigu waxa yareen wadwada ma fahante waana free style heesti bay noo soconaysaa maandhaya maxaad ku qoslaysaa waxbaad og tahaan u malaynayaa soo hadla يا سلام اوكي قفر انتو قبرنا كامل صوغل كامل دختر ويه أهونا ليدا منكا يا anyway قفكي أن فيسبوك وديتني هاي قف كان كقبنا يا السلام عليكم ولا لهم السلام يا وصانق وينك يقول ريي بل واد كشرت يا دقدق وقت شوال سعاشة إنا هذا خدك كاسما كودي سودا وو صح نوشي قبل عاد شعشة هاي أما دمر كنوع عاد كهش عندها وحوور ريسي كود عام gabadhu waxaan ku horeeyay ku dhacaan waxa weeyaan gabdhahan ka helaayade haye gabadha yar garanaysaa xaggeeda dambe dhexdhexaad tahay garanaysaa naashero magaranaysaa waryaa ha ka had laabteeda inaga ilaali inaabti laabta iyo waxaasi ha ka hadlin waxa weeye inta kale ka hadal yaa xoogay is yara haysato waxa astur baan ku leenahay anagu dambi ma rabin inaan kugu galno awgaase kama ma fahantay waa ku sideetay dad waaweyn baa leeyahay waan fahmay inaabti naga daadee waxa astur waa ku sideetay way naga deynayaan inkastoo ma garanaysaa ragga qaar eegaan kudee qaarba dhinacan eegaan garanaysaa هاي حبتك ayaad leedahay waan yara eegaya okay anigu dambi kuma lihi ilaahu waadi ogtahay hal mar kaliya lagu eegay ishu waxay kaaga dhacdo wixii ka dambeeya aanu mas'uul kamay haye ku soco waayay waxaan jeclay garanaysaa xabadka horta marka hore xabadka ka hadhin adeero waxaan kugu yidhi xageed degan tahay ma single baa tahay yaa أصحابي قبل ما سووا أركيسان أردنا كوا إنك يقول رئيس وعي وين يرد على يرى وعاط وانين الكعس وخميس حنا تلك هو يدقي أنت هسك يقولين because already ما شاء الله وكسر قيد كلاي يا
waan ku goynayaa because khadkiina uma socdo mana rabo inuu ku talax tago ilaan dad dhaqan iyo diin labaynu nahay aniguna waa anigan dee isyara shuquleeyey intaa yar ayaan kaga baxayaa ayaan yara mala awaalay ma fahamtay mar hore ay igu dambaysay xidhna maris anaa isku yara wadwada markaan lacagta ka samayn jiray markaan dabageli jiray maaha hawlahaygu way ka gudbeen ma fahamtay inanta laabteeda ayaa loo fiirfiirsani yaan la isku talax tegin anigu ma rabo sheekhi iga daba yimaada waxa weeye dookhaagu indhahaagu qacda ugu horeysa waxay ku dhacaan keliyaata maasha allah heeseenni baan inoo wadayaa horta suga asxaabtii horta sorry asxaab badan baa soo qaban kari waayo baxo soo noqda habluhuna waa inay hadlaan dookooda ka hadlaan naa waa okay haddaad ka hesho ninka dheer haddaad ka hesho ninka lacagta leh haddaad ka hesho ninka indhaha waaweyn haddaad ka hesho ninka garhka leh yes garhka horta anigu aaban ku haystaaba wallaahi billahi tala waan jeclay ninku inuu horta rijaal u eegiyo weji sibiibixoo zaa'ida aanu lahayn ceebna ma aha waxa weeye indhahaagu marka ugu horeysa waxay ku dhacaan aragtida labaad aanu dembi kuma lihi haddaad u fiirsato haddaad sii daba gasho sida ya waayi anu taama ogoli ma garatay ninku waa ina xoogay gadh lahaadaa iyo waxyaro lahaadaa sidii nin rageed lagu yaqaanay ma fahan haddii ilaahay u xiiray de rijaalnimadiisa iyo hadalkiisa iyo maskaxdiisa iyo kartidiisa weeyaan ya wal ina adeertayay life baan ku jiraaya miyaan kugu sii daayaa mise warba kama haysid way qoslaysaa wallahi ma kugu sii daayaa haye huruud baaban marsanay xidhnana halkan ismarmarinayaaye naheedha saaxiib ma iska dhicinaysaa raggo ma sheegaysaa dookhaaga ha sheegin dalkaad joogtay magacaaga ma kugu sii daayaan kugu sii daayo bliis de waxaad ka hadlaysaa indhahaaga marka ay maaragtay nin raga marka saa u eegtid qaas Facebook haynoo dambeeyo horta banalkanaad ku jirtaayo dookhaaga ragga nooceed ka heshaa in adeeray noo sheeg life baan ku jiraayo dadka la wadaa ha ma indhihiisaad ka heshaa ma dherarka anu waa iska qirtay moogta kugu sii daynaya wallahi 1 2 3 ku soco ha joojinin ha xishoon that's my friend السلام عليكم لا هاي ما تبصي ماشي waad ku jirtaa badiyo dabaaro marka waa maxay موضوع kuu sheegay waxa laga hadlayay dooqa qacda qofka bini'aadmiga ee maaragtay noocaad ka hesho lab iyo dhidig wiil iyo gabadh maxaa indhahaagu ku dhacaan marka ugu horeysa ma garanaysaa eed qofka kaga hesho ya saaxiib ku soco berigii hore markii la yaraa sida hay'adda imika waa laba arrimood haye berigii hore marka la yaraa ragga hadaan masawa uma ka heli jiray haye laakiin marka ragga dhalinyarada ku ragga gaagaaban baa ka fagtay laga tegay raggii dhaadheera marka raganimo fara batay haye ha marka ragga gaagaaban ee muhiim maaragtay ayaa ku fagtay haye ku soco xagga wejiga iyo dabeecadda iyo de waxyaalo kale waa dabeecadda ninku waa inuu de akhlaaq lahaadaa uu si fiican maaragtay ixtiraam leeyahay run badan yahay haye ya haye waxyaabo badan baa ragga lagu doortay laakiin waxaan kuli waad igu soo kedisay waxaan kuli mar kale kuusoo geli lahay dee adiga hawshaydii baad u soo gashay inaad adiga hawsheedii inoo gaarka ahayd laakiin waxaan rabay inaad boorka inaga tunto mafan hablihii oo dhan waxay loof kuu soo tuurayaan qosolka iga dhammaaday wala naaheedhe nimankii dhaadheeraa way masayrayaan maya wallahi walaalanimada waxa lagu raacaa nin qiimo badan oo run badan oo daacada oo ma garanaysaa reerkoogana wax ixtiraamo hooyadii jecel haye de masaajidadaynu galaynaa ma isticmaal xagga masaajidka u cararnaa u caymadnaa anigu 5 wiil baan dhalay ma garanaysaa qofka hadduu hooyadii jecel yahay maasha allah qofka dumar u qabana wuu jeclaanaya allah ilahe biliis dhegeysta saaxiibada biliis ha marka inay hooyadii jecel oo reerkooda ka warwara oo si fiican loo soo koriyey oo ixtiraam badan oo shaqo haysta ninku waa inuu shaqada haysta haddaad aragta ninkula maanta shaqada waan ka tegey shaqadan way igu adkaatay ninkaasi malaha kasrigiis ma fiicna
ما jirto wallahi billahi waa shaqada marka la weydiinayo yaa credit-kaaga intaad shaqaynaysay 7 sano meesha u shaqaynayay waa inuu nin credit-kiisa fiican yahay noqdaa oo nin ujeedo leh wallahi waa kugu raacsanay talabaad hablo badan baa yidhaahda okay ninku mutacallim inuu ahaado rag badan oo intay shaqaystaan daala oo businessya furta oo shirkada furta ayaa jira oo aan maaragtay PhD iyo college degree sii sareeya dan kala hayn ama xirfado barta horta ninku waa inuu noqdo nin uu furay waxna akhri karo waxna qori kara sax qofka haddaan waxba karin waxna qori karin ma kuu sheeg hadhowtu waad madaxaas la gelaysaa moogta ninkaas waa inuu karti lahaadaa consistency adigu waad garanaysaa consistency macnaheedu waxa weeyaan qof dadaalayo oo shaqo ku jira mar walba oo de kasbanayo lacag soo gelayso fikriyo noqdo reerkiisa maamulan oo kale walaalay marka waxa beenti waa qaato waa qofku nin iyo dumarba waa in xagga runta la isku sheego walaalo qof daacada alla ilaahay daacadu waa very important الله إلهي صاحب حاجة شاهنا محاتر حاجة مذب كي وحا مجلس البضها يا والله مذب قلت وحا تركت فوق قف قرح ما قف كلنا وفرح كلنا يساع الله إلهي هاي marka horta waxaan u sheegaya hablaha inay ku soo koobiyeen qofku siduu u egyahay alla ilaahay oo jaaniska aad siiso ragga u qalab waayo waxa jira rag aad u qurux badan laakiin aad u wanaagsan baa jira naanu ragga fariidadaan jecelahay dadkooda jecel hooyadii weliba taakuleeya alla ilaahay aad talabaad saaxiiba nisku ugu daro aniga adigu waan fahmaynaa ninku hadduu nolol hore soo maray ma weydiisaa xaaskiisii hore iyo caruurtiisii hore siduu u gelaayo ku qiimaysaa aad iyo aad ku qiimaynaysaa sax waayo qofka hadduu xaaskii hore iyo caruurtii hore dayacay kaasi faa'iido adiga kuma yeelanayo alla ilaahay aad iyo aad baad saaxiib u mahadsan tahay waa talo loo baahnaa yacni innaga maaragtay mushkiladeena way ka weyn tahay keliya qof in qurux iyo soo ma garanaysa نهاية الرئيس الوزراء إمك لا دورتي الصومالي ونين عاد قرح بدنا نين دقنا وأجي هاي حاسنا وقلي هاي لكن إيش أنكو يرد فتوحنا قاعدين هره you look good الله أنا صومالي أنا صومالي هاي مركا عرفها صومالي أنا بكشكين كلا ما عرفها صومالي لأن مصبي حين مدحوينها هنا كورني سقم وانين عاد قرح بدنا صاحب رنت كشكين وعواندي ويا ما عرفتك هاي كشك ما والله صعدة أنا والدولة هنا والله ولا صعدة لكن سوى صدق شركة فمال بكيمي لكن رئيس الوزراء أنت صاحب إيجا ضدك هذا عاد أيام مارك سور كيس مالك است الله صادق نانين كسهل الدين بوجي وانين عاد قف بدل ما شاء الله إلهي ولا رود الحين ولا ما كدقوا أروه صومالي ولا من وناكسنتان شعرهاي ما شاء الله بريبا نيروبي وقاسي بركا ملاكا وانكسي إنما صومالي الكينيا وقليانا يشريسيانا يباريان هذا هنتو وحنا هذا لقاميسا مركا عندنا صومالي وحنا يحاول نوراكا هاي سهمان إلهي حق لو نكرسي إلهي يقنا النبض حسي ولا على نبض حسي ولا على أنا وسلا حقا وانا الشيء ما قرنيسا لبض الواقع مركا عاد بدو مهدسن تهي لبنا مالا أي ولا معك يا صاحبك السلام يا وينو هذا وهذه مركا عرفها كبحو دواد وقف قبك الله هي وينو والله قف كافريد سبك عدي يا أرسل ما بشيرا هذا كده وعمل كسور رأسنا أنا كل شيء إيمك الله إشكاك هيك صاقر هيا نربح هيا ولا ما لنا عرفك السلام عليكم هيا ولا هيا أصحابي صاحبتي وذا كيسان أنا سوقفتي وأنا إجي الشيء ومن يكشفين ماشى دوال على واحد إن القاعدة وهو الرئيس عندنا ما كترولي كرس وحي كده بني عادي جي إلهي بيبين تلا ما فهمت أنا ودم بكمل الشيوخ دي أصحاب اللي كده بيمنن فعندما سوق بنا يا حاجة وصعب على صوبة السلام عليكم قفك سوت كشرتا مويل بقى مسكر أنا ويل بان هاي ولا هاي السلام عليكم ورا ويلكم بان كلنا هاي برنامج كقيب قال هذيك الدوخاغا إيش هذا محي كل على مركب وهو الرئيسة وعليكم السلام وطاب منكم السلام يا أدقى إيه قولي هتر هالسي وعد من بي السلام يا وإيه قول محقولة ويا هاي أدقونا محقول بان هاي
asxaabta kale oo dhanna salaam waa laynoo sida waa laynoo fadhiyaa 143 baa inoo jooga I hope inaad wada share garayseen waa kaftan iyo qosol iyo run maaragtay inaynu siyaasad iyo dhibaatooyin kale iskugu nimaadna maaha iyo dee dhibaato ina haysato culays bulshada marmar inaan farxino ilaahay baa asxaabta kale waa salaamaya wixii islaam meesha ku jira ma garad soo wada dhaweynaynaa waxaan ku weydiiyay asxaabta kale wixii meesha ku jira islaam waa salaamaya jawaabtu waxa weeye qof asturan oo xijaaban oo diin leh oo waxa weeye cawradeedu aysan muuqan oo waxa weeye wadamada dee ama fogaaday ama diintaba aan haysan badidoodu aysan diintaba lahayn aan ku dayan gabadh aan gabdhaha ku xidhnayn gabadh akhlaaq iyo diin leh gabadh reerkooda iyo waalidkeed ku xidhan gabadh waxa weeye nidaamka diintu ay hogaaminayso gabadhan gabdhaha ku xidhnayn maxaad ka wadaa inaad adeer markaasi naga yara dhaadhici de kule maqaan adigu wadanka aad joogtid iyo Soomaaliya different inuu dhaxeeyo waa suure laakiin anagu Soomaaliya aan joognaa gabadha gabdhaha ku xidhan waxa weeye ma waxna sababtoo ah gabdhuhu saaxiibo joogta ama la badiyo ma jiro haye oo reality-ga dhabta ay isu sheegan kale waayo gabadhu haddii ay aragto gabadha kale meel waxaan ku jirto waxa laga yaabaa inay tiraahdo meesha joogta waa meel haye ay ninkeeda iyada isku haddii meel xun ay joogto waxa laga yaabaa mawaahi bay naga taacayaarta waxay tiri mid uu jeel ku xidhay mawaahi miyaad ku raacsan tahay mid jeel uu ku xidho ayuu rabaabay tiri inankan hadlayaa fariimihii baan akhriyayaa shaashada live-kayga marka inaadeer dee waxa weeyaan inantu waa inay horta gabdha ku xidhnaataa waa inay walaashad ku xidhnaataa hooyadeed habaryarteed dad fiican odhani gabdho o dhan ha isku soo koobin ma fahantay ku soco adiga waan u jawaabayaa gabadhaas malixii anigu gabdhaha malihii micnaha jeel baan ku xidhaya waayo hooyada waa gabadheeda gabadha qaba gabadha waxa weeye aan afigo ahay baa gabadha adeerka waa gabadha anigu meel la kaga tegi maayo waayo gabdhaha iyo ragga anigu gabdhahan jeclahay sida runtaa marka laga hadlo ha yacni gabadh fiican baad ka wadaa inaan dadka u sharaxo ma garatay ha marka anigu waxaan rabaa gabadh nidaamkeeda ku xidhan diinteeda ku xidhan sharciyadeeda ku xidhan laakiin maxbuus iyo tacaddi midna aan lagu samayn laguna samayn karayn waayo ma ogoli in wax dhibaato ama tacaddi lagu sameeyo sax marka waxaan odhan lahaa aniga dookayga waa kaa gabdhahana dardaaran baa siin lahaa dardaaranka haynoo dambeeye masiiad baa tahay oo in lagugu yaacaad rabta mise already suuqa waa lagaala baxay waa su'aal xaqa may suuq way furan yahay markaa xaas ma tihiin miyaa mise miyaraad raadinaysaa because ma rabo in gabdhay soo wareeriyan inankii sheekh hadar rabay ma fahanta waad mahadsantahay in adeera intaasi ka faa jazaaka allah khayr waxa laaliya wixii sheekad rabo waad soo qabanaysaa wixii sheekh rabo waa la soo qabanaya dee inan music dhegaysanaysa miyaa loo ogolay chance la siiyey in adeer waa ku siiyey waa maxay dee meeshan in lays ogolaado weeye maya marmar anbaqac waa ka siiyaa laakiin de midaan ku raagayn midaan heesta ku raagayn waa ogolnahay maya sidaasaa la rabaa maya waxa weeye khayrka in lagu raago markasta way tahay wixii wanaagsanna in layskala taliyo way tahay inankaa waa fasaxayaa halkaa ka yaro xun wuu mahadsan yahay walaalkeen waa single ciddii soo weydiisanayaa dhaheen asxaabta singleka soo gala Somali singles room on Facebook aniga laftarkayga waan ku jiraa walaalo waan ka goynaya khadku waa inaga yara daciif inkastoo sawirka been idinkama sheegayo qofka been lagama sheege caruuri u saaran tahay aan u malaynayo qof nolol inuu soo maray yahay ma fahantay taa laftirkeeda fiiro gaara waa ku eegaynaa
qofkan aan ka qabanayaa ama gabadh ama wiil weeyaan asxaabta sawirka kuu saaran kama helin laakiin insha allah waxaan doonayaa asxaabta inaan kugu sii daayo wixii dooqaaga aan ka hadal walaala waa kuu furaya khadka asalaamu calaykum وعلينا أخونا عطنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. haye war nin murmayaa tahay oo sawirka ku qanacsanaya badaha ka baxee bal waaye la salaano halka aad joogtay inaad single taharta nagu qabo iyo inaad xaaska suuqa lagaala baxay tan labaad noo sheeg dooqaaga gabadh marka sidaa u eegto qacda ugu horeysa waxa indhaha ku dhacaan aad ka heshay ilaahay kugu ogyahay ما يورتا أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. calaykum asalaam marka labaad waxaan joogaa hargeysaan joogaa anigu haye hargeysaan joogaa marka labaad wow in adeera soo marka dhawaado saacada anigu single horta anigu single aan ahay inanku waa single xaqka u yara kaadiya ha ka dhex gelina biliis asxaabta ku soco in adeer haye ugu dhegeysanayaa dhaqso 2 minute kaaga ka faa'iideysa nin single ahay wanaa kuu sheegay anigu waxaan ka helaa horta hablaha maafinka casaanka xiga haye aadnaanu buurnayn haye dhexdhexaadka ah gabdho waad arkaysaan dhexdhexaad iska soo dhiga haye ku soco haye soco ku socoynaa marka waan ku sheegay hablahaas inaad u xiiseeyaan maogta saa kuu sheegay nin single nin single ma nin dheer baa tahay ma nin inaad tahay horta xooga inaa is yara sheeg qofka singleka ah waan u yara hiiliyaa ma nin cas baa tahay ma nin dheer anigu horta nin aadna u sii dheer meehi aadna uma gabin nin dhexdhexaadana dhexdhexaad iyo dharar leeg tahay waa yahay muuse bixi ma dharar leeg tahay madaxweynaheena waxaan dharar adigu waxaan dharar leekay didi baan dharar leekay didi kuma dharar leeg tahay ninka didi dharar leekay diga mitala anu ma aqaana ninkaasi inaadeer qof la garanayo axmed bikay ma dharar leeg tahay qof la garanayo reer somaliland noo sheego alla may axmed bikay wax yar baan ka dheeraya wax yar okay inankaasi bikay wax yar qiyaastii buu ka dheer yahay asxaabay sugadee waa lagu jiraaye haye inaadeer marka waxaa tiri hablaha aan maariinka ah dhexdhexaadka baan ka helaa haye xag yani featureskeeda wejigeeda iyo jirhkeeda wax indhaha ma ku dhacaan mise that's it intaasay kugu egta adiga maya kulley markaan inantaasoo kale arko aad iyo aad baan u xiiseeyaa moogta hablaha noocaasoo kalena inaan bartan 100% jeclay waayahay taasi waan gartay aad baad u mahadsan tahay waan kusoo dhaweynaya inaan single baa tahay kasoo qayb galo qolka Soomaali singles room ee Facebook qolkaas ku jira iyo badan single asxaabtayda meel walba dunida dacaladeeda joogta de waxaan leeyahay ajar baan rabaa inaan ka helo haddaad rabtaan inaad maaragtay si fiican maaragtay uga baxdaan 2020ga guryaha lagu xidhmaye bal xagga iska soo xaadir oo ku salaamayaa my dear haye inaadir salaam calaykum de inankaa weydin arkaysa wuxuu yidhi anigu dhexdhexaadkan ka helaa wax kale muu sheegin that means waxa weeyaan adiga iyo gabadhay raganimadaada ku xiranta ama gabadhnimadaada marka qof kale ku qabanaynaa wallahi topican waa war heeda dadka wax ka hadlayuun bay rabeen soo dhawo walaalo dalka aad joogtid iyo magacaaga noo sheegi karaysaa haddaad gabar tahayna waad qarin karaysaa waad ku jirtaa programka toos ku soco وايي قصر سيسو والله maxaa gabdhaha u qoraysay aniga magacaygu waa Ibrahim gabadha hadday xishoonayso maaragtay dooqeeda loo daynayaa haya qaybta Facebook aan u gudbi doonaa ku soco Ibrahim xaggaad joogtaa dalkee walaalo si kale inaad tahay inaad xaas tahay aniga horta waxaan ahay single now single waa single inankaasi waa single haya ku soco Ibrahim dalkee joogtaa waxaan joogaa imaaraadka Dubai maasha Allah haye marka waa ka horta magaaladan joogo Dubai imaaraadkan joogaa magacaygu Ibrahim haye dooqeyga haddaan ka hadlo waxa weeyaan gabar dheer oo haddana ma aragtay barida u buuran xabadka ka dhisan timan dhaadheer leh
ما قرأت sheekada meel dheer ma maraysaa gabdha waad maqlaysaan haye Ibrahim gabdhahaas ka helaa haye marka waxaan leeyahay linugan halkaan joogaa hala soo aado magaalooyinka inaan kala doorto haddana jecelahay moogtahay haye ku soco magaalooyinka waxaa ugu jecelahay mataqaanaa gabdhaha ma aragti magaalo waxaa jirta Sweden ku taala oo gabdhaha Soomaalida oo dhan quruxdooda ay isugu wada tageen war ninkan Ibrahim codsi dheera codsi gaar wata ajandu wada aanan warka haynin ku soco haye exactly gabar madowna ay soo aadin midabkeeda haddii madowda waa chocolate ay ahaataa badnaan gabdhaha madow waa kalendarka adduunka iyo xayeysiinta dharka iyo quruxda iimaanna ka qurux badan ma soo istaagtay jir iyo dadnimo iyo everything xagga diinta aniga ma ogi ilaahay Allahu a'lam waayo waxay gursadeen jaaniga laakiin waxaan kugu yiri gabdhaha iga caayina ku soco dookhaaga wada ku soco Ibrahim marka aniga haddii ama aragtay madowdahayna dib malaha change color geesanayo don't worry laakiin waa inay dheeraataa timanta dheerna ee lahaata horta muhiimadda labada meel aan sheegayna waa inay ka dhisnaataa ha waxa way xagga horena pow xagga dambena waa pow waa pow kankaasi isagu waa dhiibsaday codkiisa adigana markaas aad u egtahay waaye adiga noo sheegtaa u egtahay aan dadka kaa garanay bal wax xoogay nin dheer ma tahay nin madow ma tahay aniga ma dheeri horta aniga aan isku tilmaamo ma dheeri ku socon ku dhageysanaya haye waa aad ma dheeri aadna ma gaadni haye sayska ugu macquulsan maanta ma aragtay oo rag lagu xulan karaa ahay war sawirkaaga soo dir anigii baa fadul inaga dhigtay anyway ana idin sharaxi doona Ibrahim iyo walaalkay laakiin sawirka waa soo diri doonaa soo dir sawirka waa soo diri doonaa insha Allah laakiin fariinta igu gudbi xaqarin waana ku jirtaa ana ka soo baxay aniga gabdhaha Ibrahim aan ku sheego qolka Somali singles room on Facebook ay soo galaan waana approve karaya soo gala dhalinyaradu wallahi 2020ga waan jeclay walaalada inay iska bartaan si sharaf leh gabdhaha ma jecelin qolka ugu dhibaateeyo lagu caayo lagu hadido waxaan kale oo sii reebaya mataqaanaa fariinta kale oo sii reebaya waxa weeye gabadha waa inay aniga ii timaadaa magaalada waa inay soo aadaa ha everywhere adduunyada meesha ay ka joogto Africa Europe war Ibrahim oo khadka iga bax salaam calaykum halkaas ka qooshatay qashinka hayes billahi tawfiiq Ibrahim nin waalan weeyaa wuxuu moodaynaa ugu hiilinay naag aniga hay ii timaado sheekadaas ma jirto waxay idin sheegaa gabadhii u tagaysay Dubai u socotay danteeda u tagaysay waa okay gabadhii kale maaragtay laga yeeli maayo hufan baan u soo yeeraya walaashay qaali oo Facebook asxaabta Facebook hufanay soo gal qalbiga aniisa qosol oda cilmi aan arrimaheena gelin هلا ليه مرة aad baan kuu salaamayaa hufan quruxay salaamu calaykum saaxiib soo wareeg horta Ibrahim u waran shuruudaydu waa in la ii yimaadaa aniga taasi bal ka sheekay xagga ka bilow intaynan meel fog gaarin anigu horta wiilkii hadda ku jira mid dukaan buu ka adeeganayaa dukaan baa la yiraahdaa waxaasaan rabaa qof yani wuxuu u doonaya dheer xagga u buuran timaha dheer no one is perfect yeah والله وارنتا هرتا هيدا رنتا كو شيغيا علفku waa halkiisa laakiin qofka garanayo wuxuu doonayo inaan ka kuma caynaayo ma garanaysaa laakiin ma wax kasta kama yeelayno ani hal ii yimaado saana raba ceeb maaha aragtidayda qofka qacda ugu horeysa anaa faduuliya anaa ii soo sheega waxa indhihiinu ka helaan markaaba ku dhacaan aragtida ugu horeysa wixii inta ka dambeeyay Ibrahim waa soo wal Ibrahim oo naga fariiso waxa ku jirta hufan aniga waa gacalta horta anigu qof gurdoona ma ihi ما شاء الله اوكي ما شاء الله اتس اوكي حبيبتي نوشي ها نواني مالطا نوشي وحكي ضخوة اوكي وقف waliba ra'yi buu leeyahay hadda for example markaad meel gashid anigu dadka ra'yigooda kuma diidayo waqtiga qofka markay saa u arkaan inay waxay ku helaan waxa ay doonayaan qof walba dooq buu leeyahay laakiin waxaasoo dhan anigu waxa igala fiican
inuu qofku materialka yani waa material oo kale markaad tidhaahdo timan dheer xaggan dheer kanoo dheer aad tidhaahd laakiin waa waxyaabaha hadda guurkeena Soomaalidu uu u baaba'o يعني معين على ذاديا قفك لكن دبيعة ديسة دنمديسة وحبرشديسة وحقبتيسة دينتيسة يس دينتيسة هي ما شاء الله إنه ماذا إني وحصل دم يصح حسن يعني ماذا مذوبة كان عقارة حق هروين حق الدنبودر مين أوجين بإنك كي وحصل الله سمين كريا والله أنت حق الله يسكسوا عفوفي كريا حق الله يسكسوا عفوفي كريا تمها أنت ما لو قد دبن كريا waxaas waa wax la sameyn karo suuqa yaala madowga waa la dhaqi karaya cadaan baa laga dhigi karaya haddaan madowdahay madowga iska dhigi karaysaa indhu hadday ku yaryar yihiin waa jeexaysaa waa weyneynaysaa camal haddaadan lahayn waad afuufaysaa fururyo waaweyn haddaadan lahayn waad samayn karaysaa laakiin qof kastaa waxbarasho heera ma gaari karayo dadnimo ma samayn karayo qof waliba dabeecad fiican qof waliba ma samayn karayo marka walaalada dadka Soomaaliyeed waxaan oran lahaa bal xagga kale wax ka eega sida guriga ku dhaqmaan horta share programka asxaabe because dad badan baa ka faa'iideysanaya walaashan hufan waxay idin sheegtay markaan aroos tagayno inaan gabdhaha extension timaha ku darsanno makeupka indhaha ku waaweynayno aniguna runtii maadaama qurxinta ku jiro waa idinka sheegaa runta waxyaabo badan kow naftaada iyo timahaaga iyo maqaarkaaga iyo originality baa ka horeeya oo hagaajinto wixii ka dambeeya aesthetically waa ku yar dardarsan kartaa laakiin waa runta arooska hadda last weekend kan tagay aniga ma tagin gabdhaha asxaabteeda tageen ee aan markaan moolka tagay sawiradiisa la tusaayay iyo kan hadda sabtadan bariya soo socda timaa la isku soo xirayaa makeup baan soo marsanaynaa waxa weeye dhar baan soo xiraynaa gabdhihiin wax soo xidhaan keeshiliyo naasaha lagu taago oo buushish waaweyn wato nigisyo buush lagu sameeyo barida weynaynaayo oo saa u kuusaayo so walaalay runtay maaha bal car inan kaliya been ila mil baa ka sheegaysa ha isoo qabto waa everything is fake laakiin qofka dabeecadiisa dadnimadiisa diintiisa xishoodkiisa dad la dhaqankiisa sidoo wax u qabsan karayo waxaasoo dhan ayaa la eegaa ixtiraamkiisa sumcadiisa suu ilaashana cabsigiisa oo koow ka ah yani waxyaabo badan ayaa jirta marka maaha oo kaliya inaad qofka isku aragtaan waana jeclay walaaladayda runta ka sheegay yiri aniga barigii hore saasaan samayn jiray haddase meelo kalaan ka eegaa laakiin qacda ugu horeysa qofka ma controli karayo waa doq oo waxba indhaha ku dhacaya waa wax kugu beeran oo ilaahay kugu beeray adigana adaa kuu soo jeesanaya iga baxsan maysid okay haddee soo daabaan kugu yiri meelihii ugu horreysad wax ka eegi jirtay ka fiifiirin jirtay haddaa markaysa soo dhigan waa la isku soo tuurayaa meeshan ma fahanti saaxib noo sheeg sorry adaa soo gas really anigu dawaayadii hore waayadii hore rajul muxtaram ya qofku muxtaramka ixtiraamka leh ee xushooda ee hablaha kolkuu arkaba hadda dhaqan xumgan abaay waa kaa socotaa abaay saanaa tahay waxa aanan aqoonin gabadha intuu salaamo yani walaal ma kula hadli karayaa sheeko ma wadaagi karnaa ma qof ma la socotaa ma laakiin wixiiba hadda maba jiraan hadallo aan munaasab ahayn bay inamada hablaha kusoo tuuraan markaa I'm not yani ma binti shaaric miyi gabar shaaric miyi maxaa ay ugula hadlaysa ayoo kale baa ka hor imanaysa xoogaa dhinaca marka ragga inay xoogaa iska bedelaan baa fiican ها ورنتا قبل كستين لا احترام بالرأي معها حتى مد سكر ولا بيصير خلل لقى فهمه حتى تمرد قوم أنا مسكح لي دبنت هاي وعلى حاجة مريض إن لو أركب حيوان معها أو قفل ولا احترامي لحشمة ويتان إن أنت حتى نركب معك قبل سروال لحدون أنا كم ده هاي وشرف لباشرة قبل حجاب حدون يعني حنتو دي لبكو دي بالشدة قصكي وعطي قوة ذان كبدن tahay baa jira inta ay u qabanayaan ma garanaysaa marka waxa weeye qof kasta ma ogaan karaysa laakiin marada la xiranayo jalaabibna waa xirnaa saraawiilna waa xirnaa ma sameynayso qofka akhlaaqdiisa kama hadlayso maradan la xiran yahay adoo bahalka weyn sita ayaad qof xun aanaysa adigoo surwaal wadamadan aan joognana dee roob baa da'ayo baraf baa da'ayo surwaalkan markayna horena waa xirnayn oo iskuullada lagu dhiganayay haddana haddii la xirdo ma talayso gabadhu inay qof xun tahay qofkii u arkana dee isagii way
I looking disgusting يعني marka inama aad aragtid يعني ka hadlaya hablaha labiskooda yani u maleynaya habla xunxun inay yihiin oh no yani iga eeg aniga diinteeda eeg waxbarashadeeda eeg dadnimadeeda eeg saa wax u qabsanaya eeg laguma dirsan waxaan xiranahay it's not your business kaaga weeyaan markaas oo kale ma look you adiga waxa tahay male ma kooranaya marka xoogaa waxa fiicneed in Soomaalida iyo midda kale oo ka ilaaway raggu marka ay rabaan wax goolka hadafka gabadha markay arkaan iskaga day iyo oranin gabar walba haatan waa ku dayaya tan waa shukaansanaya tan waa raacaya isaga confuse ku dhacay oo meel u socdo uu san jiray banaatan naasan say ukhtaag weeyaan gabdhaha islaamiyada sida walaashayo kale ka soo qaad gabadha aragta waxa darsan sometimes gabar waxa jirta cawaatifka daciifka oo iska rabta yani qof hadal macaan dhaha kaasoo kale oo ku ciyaaray markuu soo galo walaal eeg waa walaashayo kale wayna Soomaaliyeed haddaa aragtay iyadoo daciifa mush inaad adigina aad ka sii darsato oo ma aragtay qalbigeedii jaceylku aad mush ka darsatay inuu wax xun ku sameynayo qalbiga kaliya aad jaceyl u geliso uga baxdaaba adduunyada wax xun ah wax la siistaan hayn qof yani qalbi jab baa ku dhacay Soomaa ma runtu wax xaqiiqadu sida aad sheegtay weeyaan nin kasta wuxuu doonayaa inuu meeshu doono ka dhaco yani haddii xitaa tabiga ka baxno mid kasta wuxuu doonayaa rag iyo dumar way dhici kartaa dad badan oo wanaag rabin oo raba xitaa dumar baa jira intay wiilal yar maskaxda ka xadaan online ka taga dalalkii aynu ka nimi carabaha dalkii hooyo intay shukaansadaan yani zawaaj mutca la galaan ya isoo guursa hadhow telefoonada ka xidhan nimankiina la kadaalik way dhici kartaa habla intay shukaansadaan xitaa qaarkood dadka qaarkood xaaraan ay ku wada seexdaan oo ladaan taasi kama hadlayno waxa weeyaan mar walba qofkii wanaag inaad ka doontid weeyaan because waxa weeyaan qof yani saalax qof wanaagsan doonaya ma helo qof xun anaa been ku sheegaya ya ka xumaanta wada intuu magaalada dhan soo rogo doonaya gabadh virgin inuu guursado virgin ma helayo naag been ka sheegaysa inay virgin tahay buu helay marka ilaahay baa ugu ballan qaaday laakiin xagga dooqa oo kale adigu waxaad tiri aniga rag kama eego waxaan edeb iyo akhlaaq ahayn kama eego dherer tima inuu leeyahay inuu madow yahay inuu cas yahay sidaa ma isku raacnay saaxiib حاول محترم قفوا انه محترم هذا yes oo akhlaaq تعاملkiisa ana sidoo kuula dhaqmanayaad ka garanaysaa guriga uu ka yimid fa midda kale gabdhaha aan doonaya inaan ku idhaahana shukaansigu